بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. dhammaan bulshada Soomaaliyeed ee bartaniga daawanaysa iyo kuwa daawan doona haddii Allah raxmaanka ay nagu simo tan wax fayra khaldan ma baan filayaa aad iyo aad baan idin salaamayaa waa gentleman soo dhawaada insha Allah taala halka sare dabcan waxaan jecelahay bulshada Soomaaliyeed inay igala socdaan qoraalka halka aan ku soo qoray Abdul Aziz Muhammad Ali wa alaykum asalaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhammad Indo Korey Nur Muhammad Khalifa كل ده كنت أنا كومنتيو دار كي مالكة كل مية دورت سوماليات ما شاء الله هذيك أنا هذه أدوان كوس سلام يا ولا لمنتي وحنا كوس سلام يا سلام قيمة بدن أو عبد الحكم هذيك أنا أدوان كوس سلام يا إن شاء الله تعالى صغير بتها دي له هيك دقوا وحنا كهذا تونا دور قدام فرت قولي وجبني مملك كوبات ما شاء الله أرمي معلمها السعودية بلد حوا أو السقاف كرتي إن دربي لتشوشيو يشترك كمان تماشوا كدعي وتطبيق لاتن كي بيش هاي هي القرن ولا لدينا هذه أطباق كوس سلامة يا دمان تيم با دسران تهدن نسو قادوا يوحن كوس سلامة يا لبضك عمود با هذه برشلة صومالية هذه أطباق نتشعلها إنت مع أبو كان صعود كاس كسور وهذا قد بدأ وقدر كورون لك كل أن كسوق عدن تون برنامج كنا وحكم ده هش أرن كي بلد حاو هشيس لقي قاري بوحة أو لتشوتشي ما شاء الله وأقول لكم إني كده مركي لبدا مدحبين وده هالين سيدو كره maantana ay gudidii uu madaxweynuhu xil saaray iyay sarkeen kuwii kale ee Kenya ma sha Allah arrinkaasuna qolihii ku soo raad gadanayna horta halkaas way soo afjarantay waa guriyo gobonimo qodobka kale saddexaad ka hadli doonana waxa weeyaan xisbiga EPRDF oo isaguna maanta doortay gudoomiye doortay ninkii muslimka ah Oromada ah oo BDS maroon jiray xisbiga Oromada isagana waxaan leenahay ninba waxa lagu dhibari war hebelow magaca masuur looge مسافر لقوم من الفدية بل السجن أول حكينا ونأرك دونا أنا كمان سهر داعي سيدو كلا قضاء كلاس تحدنا وحويا فائدة داي من نمط ولا هاي تحرك يا ضد من كبريهن جوني جوس دي وحصة عبطهم يا أو دود جرين يبي جوني جوس ده خلا دبا جوني جوس خسارة على كده حري سيدو كلا فائدة دي مدني ما دي أي مدني ما دي سوماليا مركزات قوي مد كهاين أيان درستاج دونا إن أنا دوني دوبا maanta waxaan aanay ogoleen sida dalkan yar ee afartan gobol ee Riijka oo iyagana tusaale soo qaadan doono ee lagu magacaabo Catalonia oo dawladda Spanish ku diiday sidoo kale safiirka Imaaraadka u fadhiya Muqdisho oo loo yeedhay iyo arrinkii Imaaraadka oo la maraya qaramada midoobay oo waxbana aanay ka soconayn safiirkii isaguna ka garaabay oo qaray arrinkan lagu deeyay iyo qolada hargumeysi oo iyagana ma sha Allah ma baydhaaday badawaba hargumeysi kuwaas Allah ana dhaafiyo naga soo qabtay oo iyaguna maanta qaraska tuur aan kaba baqanayaba dabcan family-gii dadkaygii walaaladay ehelkaygii qaraabadaydii ayaa jooga Hargeysa iyo Burco oo iyaguna maanta iyagoon ka hadli karin seelic diyaaradaha iska soo duuliyay ee soo galiyay sidoo kale maanta ugu dambeysay Oodweyne oo diyaarado aan la garanayn oo joogoosa ku duulaya waa Oodweyne hadda waa Burcaagteeda waa gobolka Togdheer iminka deegaanka daadam leeyahay wax wala bixin laakiin se waa Oodweyne aan garanayn iyaguna diyaarada iska soo galiyay halka ay qaraska tuur ay eedeynayeen xuutiyiinta oo ay ku eedeynayeen in waran caawa hadii wax igeera khaldeen xagan waxaad moodaa inay sidii live-ka sidaan u soo gali jiray keer duway idinka ay soo sheegi doona hadda si fiican ay arkaysaan arrinkaas dhagdhagiyay iyo xuutiyiinta oo ay maanta dhaleecaynayeen xuutiyiinta oo Sacuudiga oo ka gardaran waa Sacuudiga isagoo fargelin buu ku hayaa dalka la yiraahdo Yemen ku riday gantaalo marka waxaan ka baqanayaa nimankaas ilaa talo xumadu sumarkaa sheegtay inay dadkayga u soo jiidaanba Burco iyo Hargeysa inay u soo jiidaan gantaalada xuutiyiinta waxay iska ciliyaan ma laha kuwaasay maanta eedeynayeen halka aanay ka hadli karin diyaaradaha sharci darrada ku soo galay waa okay walaal Soomaha merci beaucoup wadnaasanta aad baan idin salaamayaa kaayarna saacad waxay kaga fadhiisatay waxba ka oran maayo oo qoliyaha qabiilku koon yahay baa tahay teleson bay kaga fadhiisatay iyo wadani iyo kulmiye iyo waxaan hadii aad yarkii meesha qabsan lahaa in yar qoliyahan walaale anigu waxaan la dagaalamaa horta munaafiqiinta jawaasiista faraha badan qabiilkay doonana sheegtan ee social media ku jira in ka gadar ku qorto waan garanaya waxba idin sheegi maayo waa nooca sheeganta ka soo carooday iyo mid yar oo meelaha xiiran oo isaguna meelaha ka hadla waa groupka noocaas maxaa bariga hore loo arki waayay ilan iyaga walaal hadalkay ugu furayeen in keenay yar oo cadaalad ma garxajis bay u shaqeysaa wada hadii aad arkaa meesha qabsan lahaana waxa oran lahayd sida kuwan kale
fifa jamhuuriyadda barakaysan ina almunaafiquuna lakaadibuun anu waan idin aqaanaa cabdisalaam baanoo ninka raga ma siibto suuradii ma guurto carabkiisa sare iyo calooshiis isma seegto hadba sidii u jeediye kama way cusurnkeen khaayin baa sal fudud oo saacadiiba midabe haddii cabdiraxmaan ciro soo bixi lahaana waxaad nagu odhan lahaydeen guul iyo gobonimo somalilaanta jamhuuriyadda barakaysan markaa cadaalad inuu maanta garxajis war garxajis iyo habar jeclo iyo habar awal wuxuba waa isku mid waa hal qoys waxay ku jirtaa dadnimadooda iyo raganimadooda iyo macaankooda iyo garashadooda iyo garaadkooda soomaaliya is wada raacda iyo midnimo walaa axmed silaan aanay ku jirin walaa waxaanay ku jirin cabdiraxmaankan bidaarteedin soo samaystay walaa ciyaalkan yaree saacaddu garxajis kaga fadhiistay iyo baanay ku jirin walaa kuway jeegaanta kaga fadhiistay baanay ku jirin ninka ragga waa inuu badheedhaa marka mawduucaygiiba iyagaa igu soo horreynayaba adeerayaal abtiyaal hidaaya haddaa ilaahayna garanaysaan anugu garxajsow waxaana ka hadlaysaan aad u wada kacsantihiin waan garanayaa waxa weeyaan maxaa uu cira meesha u qabsan waayo idinkama aha cadaalade cadaaladdu waa inay ku tustaan dulmiga meesha ka jiro oo dhan may ibraahim walaadeed baan kuu salaamay waxaan usoo noqonaya haddaba anigu idinma kala saarayo isaaqistaan baan meeshan u bixiyey waa isaaqistaan isku mid baynu nahay dowladnimadu waxay noogu jirtaa sharafteenu waxay ku jirtaa dowlad soomaaliya taasi ku jirtaa waxaan usoo noqonayaa haddaba qodobadaan usoo galay intaasuna waa inta dadka aan karbaashka u qoray xoogaa kuma sii fogaanayo laakiin waan dul istaagi doonaa kuwa maanta le midnimada iyo arrimo noocaas qof aniga hay weydiina waa qofka waxaad u baahantay dee waxaan anigu halka waxa igu soo diyaarsay kamacaa jawaari qudhow ku yeeyo daaniga jawaari waxba igama galin ka uu ku yeeyo qof qudhow aniga qarannimada soomaaliyeed iyo waxaan ka hadlaa iyo danta ummadda soomaaliyeed shaksina kama hadlo qabiilna ma daneeyo qabiilada soomaaliyeed aniga kabarada xaawo jooga waa qabiilkaygii ka muqdisho joogana waa qabiilkaygii ka burca joogana waa qabiilkaygii dalkana waa dal qura laba daloo soomaaliyani ma jirto ummadda soomaaliyeed waa isku wada mid adeer adigu ka hadal anigu wadan idhaarsan coldoonna ma aqaan anigu waxaan ka hadlayaa sidaan uga hadlaya aniga aqaan waxba waanan u jeedinba waayo dadkaas toshuushka ka heshaan iyo buuqa iyo qeyrada okay maanta walaalayaal heshiisku wuxuu ka dhacay lagu wada gaadhay in la joojiyo gidaarka la yidhaahdo allahu mustacaan gidaarkan la joojinayo beled xaawo waxa uu ka dhacay magaalada lahda mandheera hadduu mandheera ka dhacayna waxa dowladda soomaaliya u socday oo wakiilo ahaa wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee maamulka jubbaland oo madaxweynaha iyo dowladda wakiilatay iyo guddoomiyaha gobolka gedo heshiiskuna wuxuu ka dhacay degmada mandheera ayuu maanta ka dhacay arrinkaa halkaasaa lagu soo afjaray qolihii kusoo gaban jiray iyo kuwii beled xaawo waxaa lahaa gidaarka waa la joojiyey guul iyo gobonimo dowladdeenna waxa uu matelayey wasiir ku-xigeenka amniga maamul goboleedka jubbaland iyo guddoomiyaha gobolka gedo heshiiskuna wuxuu ka dhacay meesha lahada mandheera taasu waa tan waa qodob oo arrinkaa isaga wuu inaga soo dhammaaday soo guul iyo gobonimo maaha dadkiina waaliyo anigu horta haddaba nin isfaasho waari isnuugtay ka hor baan ka hadlayey ka hor ayaan waxaan ka hadlayey beled xaawo intaan gidaarkanba lagu samaynoo beeraale markhaatigiisu fogeeyada cabdisalaan inta tilmaan baane youtubeyada waa soo baari karaysaan hadalkaygana dadka in badan oo ila socotay waan ka hadlaa berberaan ka hadlaa burcaan ka hadlayey waxaan ka hadlayey beled xaawo waan ka hadlayey dhammaan waan ka hadlayey waan damaqanaya maantana waxaa leeyahay guul iyo gobonimo waana ku faraxsanahay oo allah raxmaankaaba igu og in gidaarkaa la joojiyey in soomaaliya guulaysatana waa sharaftayda iyo qarannimadeeda laakiinse anigu interestan iyo guul gaara uma soo galo haddaba waxaan dul istaagayaa allahu mustacaan qolyahan maanta le goonigosadka iyo wixii la isugu biiray midnimadii soomaaliya horta waxa markaa taagan baa qurux badan in laga hadlo qofkeebaan walaal abshir macalin waa naga saaraya walaal oo dadka munaafiqiinta aanu ma jecliya labuujilayaasha xitaa ciyaalkiin yar iska daayo qaar waaweyn oo wariyaal iyo ku gabada iyo arrimo noocaas ayaan ka hadlaa oo aan banaanka soo dhignay waa arrimahoodo dhan banaanka soo dhigno iska dhigay balaayo bas anigu laakiin cayaan baan u aqana oo soomaalida khaldo oo laba wajiilayaala oo qorismar soomaalin ba dhinac ka soo galo markaan iminkana mawduuc kale ka soo dhigtay midnimadii waa fahmi doontaan anigu markaa iyagu malaa sarbeeb iyo balaayo iska dhigeen war libaaxna ma jiro bisadna ma jiro shabeelle ma jiro halna ma tiid ummadda soomaalidu baa intay aad meelahan usoo fadhiisateen ayuunbaa doonaysaa inaad ka sheekaysaan wixii odayaashii lixdankii midnimada geliyey ee waqooyiga ka socday way saxsaneen waxaanay u saxsaneen waxay garanayaan faa'iidada ay midnimadu leedahay okay hadday saxsanaan yaa uu xumeeyey waxa uu xumeeyey siyaasi dulliya baa uu xumeeyey waana kaa maanta bayna soo hortaagay
siyaasiyiinta duligaaba uu xumeeyey dul istaag qofka uu xumeeyey waa siyaasiga odayaashaas waxay garanayeen maxaa haddaba waxaan dul istaagaya ninkan maanta le goonigoosodka wixii laga dhaxlay baan kuu sheegay adigu waxaad leedahay goonigoosodka ad u aragta aba malaa sax goonigoosodka waxaa laga dhaxlay qaxoonti waxaa laga dhaxlay tahriib waxaa laga dhaxlay walaal telefoonka waa caadi wii furayeen waxaa laga dhaxlay wax la yidhaahdo qabyaalad waxaa laga dhaxlay tacaddi waxaa laga dhaxlay hantidii guud oo la boobo waxaa laga dhaxlay bahadilaad intaas oo dhanba waxaa laga dhaxlay markii nimankan waqooyi somalilan waxaan ay sheeganayaan isaaqistaanka reerkan isaaqa la yidhaahdaa qadiyadna maaha waa qadiyad qabiil oo qadiyadda qabiilka waxaa laga dhaxlay inta wax ee maanta laga dhaxlay iyagu ha soo beeniyaan waxaa laga dhaxlay bilaa caafimaad xumo in hosbitaalada loo aado iyo caafimaadka loo aado Ethiopia ayaa laga dhaxlay iyo in India la aado miyaa la aadi jiray I'm asking you that question waninka maanta midnimo goonigoostka soo qaatay kaastaasan ku weydiinaya okay waxa laga dhaxlay in Ethiopia la aado oo Ethiopia waxbarashada loo aado waxbarashadeenu aanay lahayn maanta tayo oo certificate ku yahay non recognized oo la aqoonsanayn markii Soomaaliya ay midnimada ahayna waxaas oo dhani Ethiopia inaga waxbarashada soo doon jirtay caafimaadna u meenay inta jirtay waxa laga dhaxlay xanuuna la garan balaayay oo macaan leh oo dhiikar leh oo wax allaala wax la garanay waa cid ka controleysa ban jirin waxa laga dhaxlay qabyaalad meena maanta isku haysanin sheegaan iyo sacan muuse iyo habar jeclay oo sirtani oo banaanka oo ilaa in keeraal cadaala waxaanu ka sheekay ama ka soo caroonin sacan muuse reer qura loo shaqeynay maxaynu faa'iiday ninkan goonigoosodkay kaga dhigtay waxaan la faa'iiday hal reer oo qabiil oo loo shaqeynayo waliba isla sii reer hoosa waa qabyaalad waxa laga dhaxlay dulmi oo dulmi in dadkiisu wada haystaan oo maanta la dulmi adiga lagu xidhay inankaagan maalinba dhinac ku hadlo adiga lagu xidhay madaxweynaha sarantay baa laga dhaxlo dulmi bay heedo aniga ku hadlay okay maanta aad xidhneed aniga ummadda Soomaaliyeed ba ku kacnay dulmi bay waxa laga dhaxlay tacaddi waxa laga dhaxlay Allah musta'an waligiiba caashay ga dhaxbax ama haniyo jawaama iska daayay ninka raga ma siibto suuradii ma gurto carabkiisa sare iyo calooshiisa isma seegto hadba sidii u jeediyo kama weecdo suranka khaayin baa salfudo saacadiiba mid abe ayala aniga gabadhaada asna iga dhaxbax hadaad ilaahay garanaysid anagu runtaan ka hadalnaa Allah raxmaanka wuxuu nagu yiri waa xaw niyad jabay iyo hebel baa niyad jabay yaa niyad jabi kara Soomaaliya dhama burbursan dalka dhama burbursan maqadiyad baa misan waa dal baa la yiraahdaa isaaq baa dal noqonaya taas anigu ma yaa naga isaaqsan qofka anaga maanta isaaqa naga dhigay waa kuma waxbarasho bilaash Soomaaliya lagu haystay caafimaad bilaash lagu haystay qabyaaladu sidan ma ahayn dulmigu sidan ma ahayn dawlad military baa ka tirinayso wixii siyaasad u soo doonta ayuun baa loogu yimin jiray laakiin qabyaaladeysto dhama maanta ka faa'iideysanaya haddaad farmaajo nacabtahay it's up to you haddaad khayra nacabtahay aday ku taala qoliyo tashuushka shalaayta balad xawaa ka hadlaysa maantana hebel kala ka hadlaysa doraan maxaa uga hadliyay talabaad qofku maaha inaad ku mashquulshid ragan yar ciyaalka ay malaacniga meelaha ka qeybqeyliyaan waxay ku mashquulaan dhacdooyinka maalinta taagan laakiin malaha wax la yiraahdo odoros iyo curin malaha war odoros maxaa ku soo socda dalkaagi waxaanu ka dhaxalnay goonigoosodkii ina maxaara hargeysiyo burcanaga baawraadka soniga oran jirnay xabashi wada meeno aabahay oran jirnay awowgii oran jiray maanta ma adiga oran kara arwa taas si burcaya hargeyso qof ka dhaxidhaahdo xabashiyo aniga burcale aniga hargeysa leh waati naagteerada oromada ahayd ninkeera gabiyay kaasaan anigu maanay inuu geer loo geer qaatay ila yiraahdo abwaan khaliif hebel nagey ee surunta ka hadi ee ku tiri ninkeera baalashlaa markuu darbaaxay inankii ay daadahaysanaysi waati ku tiri kan aan dhabarka ku sido wallahi ma darbaaxi doonto isagaana ku darbaaxi doon goonigoostka taasaan ka dhaxalnay hadaba aanu ka dhaxalnay waxaanu ka dhaxalnay oo kale halkan aan ku hayaa sawirkeedii waan intusi doonaa insha Allah taala wayna sheegtaa cadaalad waana dul istaagtaa goonigoostka waxaanu ka dhaxalnay berbera waa meeshii awiyday lahaayeen iyagoo reermiyaba oo iyagoo waxba aqoonba waa meeshii awiyday lahaayeen waa awiyaday anu awiyaday baan u aqaanaa dhamaantood ama reer buhoodla ha noqdaan ama reer sool ha noqdaan ama reer awdal ha noqdaan dadka marka la gurayo marka la qabiilkanta anigaaba qabiilkaygu wi laakiin marka la gurgurayo ma oranayo qadiyada isaaqa gartooda u dhama siinayo hadii laga gardarnaayo bari dagaalameen oo ay dagaal sameeyeen maxay faa'iideen oo soo kordhin markaana siyaasiyiin baa madax isla galay talabaad ka sheekee macaankii iyo dawladnimadii 60kii markii la midoobay maxaa ka dambeeyay waxa ka dambeeyay inaanu powerka African Lions
oo african power keeno markii Soomaalidu isu tagtay mid ka maxaana loo burburiyay xitaa isweydii anaga ma qof yaro meelaha ka soo hadlaya noo dhigaysina waxaana loo burburiyay power keeno lahayn ilbaxnimada iyo xadaaradda lahayn war Mozambique iyo Angola yeena ka shaqeynaynin xorriyadoodii miyaan ANC aan lagu tababaraynin Soomaaliya Muqdisho oo ANC di South Africa ka dagaalamaysa miyaan Ethiopia maalintan kan tagraygaay ina burburiyay miyaan Muqdisho wax ka barnayn miyaan Soomaalidu aanay power lahayn miyaan loo soo tartami jirin miyaan shirarkii EU African United lagu qaban jirin Muqdisho miyaad soo inaga burcaaban kala hadlaya burceen maanta miyanu taariibi jirnay soo inagii Dubai xaafada Dubai la yiraahdo burca ku taala raggii Dubai iyo Dahraan tagay miyaan dadkayga soo dhisan oo aanay dadkaygu miyaga taariibi yaqaan cadan bay tagi jireen Dubai bay tagi jireen meesha doonaan bay tagi jireen gooni goosad kanaad ku faanaysan leedo gooni goosad hablaheegii baa taariibiya koon taariibiya soo ku wada macquul nacaaye meelaha naga soo caaya waa qoxontiyo meelaha ay joogaan marka bal disadvantage iyo advantage ka soo eeg maxaynu faa'iido Soomaalina waxa may faa'iidina inaguna waxa may nafay waxaynu faa'iidnay taariib waxaynu faa'iidnay Allah musta'an qalalaase waxaynu faa'iidnay wax la yiraahdo dulmi inagu isku sameeyno qabyaaladii hoos u sii daadegtay waxaas oo dhan baynu faa'iido waatano halkanaad ma is FIFA isaaq baan idhaahdaa marka FIFA isaaq maxaa soo kordhay ma sharaf baa u kordhay mise dib u dhacay diyaaradaynu lahayn isbitaalada free baynu ahaayeen waxbarashadu free baynu ahayd dawladnimadu haysanay karaamay lahayn ninka Soomaaliga carabta u dhirbaaxi jiray markuu Dubai awiyadeen joogeen iyo Sacuudiga maantana waa adiga arkiyo hableeniba say doonaan silayaan loo yeedhayaa halkii awiyaday kala ahayn berbere wax gool lagu qaado ka weyn maanta berbere maxay qaaday waxay qaaday berbere gurigan yar silayaan looga dhisay meesha la Dubai inanay iyo gorismarisow iyo qabyaaladeysto iyo maalayacniyo anaga silayna cidna naga ma xigto runtana anaga ka hadlayna silayna nin anaga kala baa qarankii burburi anaguna isagaan leenahay iyo fikirkiisu waa khalad waana been wax shaqeynayna ma waana dib u dhac iyagu baahan si ku boobayo guriga yar baa looga dhisay meesha la Dubai halkan aan ku hayo waa berbere intay jartay berbere inta ayay inoo jartay oo inoo goyso balaga raali ahaa marka waa meeshii hadda aynu lahayn Allah musta'an berbere wax go lagu qaaday ka weyn berbere inta yar bay qaatay halkan aan ku hayo waa guri looga dhisay meesha la Dubai okay taas waa taa waxaan ka hadli doonaa hadaba walaalayaal meesha la yiraahdo Catalonia waa loo diiday inay goodo Catalonia waxay ka tirsan tahay meesha la yiraahdo dawladda Spain markii ay ku dhawaaqeen Catalonia inay go'ayso dawladda Spain waxay ku sheegtay sharci darro iyo khaa'inimo qaran hogaamiyahooda waxa la oran jiray Charles Belgium buu baxsaday Belgium buu aaday kadibna Belgium buu ka baxay imka wuxuu ku xidhan yahay dalka la yiraahdo Germany xitaa European ku wax gooni goos la yiraahdo ma ogolaba okay Catalonia waxay ka tirsan tahay afar gobol oo waliba riix hooganiyaba anagu waxa ma haysanaba wax allaale dekadira berbereysano imaaraad baan ugu soo rajay waa gobolada waxa la yiraahdaa mid Barcelona Girona Tarragona iyo Lleida oo ugu taajirsan meesha la yiraahdo Allah musta'an Spain afarta gobol ugu taajirsan waa loo diiday bal qisada kale la yaab kale European waxay xisbiye samaysteen iyaguna waxay leeyihiin xisbiyan leen wan family qura ayaa hooyada iyo aabaha iyo caruurtooda u kala codeeyaan xisbigii ay doonaanba qolaba xisbigii joyskud inagana qabiil iska dhan oo wada wadanaya madarta qabiil iska dhan oo wada kulmiya ma doorasha maxaa qabiil kan dhan ee wada wadani ka dhigay maxaa qabiil kan dhan wada kulmiya ka dhigay bal aniga iga soo sheekeeya European baan ku daynana doorashan sameynayna da European ka doorashada hooyada iyo aabaha gurigooda joogay family-ga qofba xisbigu doono u coday Catalonia laga diiday hadaba miskiino Soomaali waxaan leeyahay niyo iska daaya wax la ahdo waxayna hayaan clan mentality xanuun qabiil baa inagu dhacay waali qabyaaladeysan wax la ahdo clan mentality aynu qaadano nation mentality haynagu dhaco xanuun qarannimo leeyahay oo qarannimada aynu socono oo sidoo kale aynu qaadano state mentality وأنا استيد هان قادم لكن سو وحنا نقول إنه قبيل با كلام قبيل با ما تعودن وجاهليمو ودولينيمو
qabiil wax la yiraahdo aniga lay boonboonanayo qabiil baa qaran noqonay oo rag waaweyn oo mutacalimiin iska dhigay afka ka duwayaan oo ka beerbeerayaan ruuxana wax umada dhaqaya ma wax soconayna ma waxa walaaltaas waa taa hadaba waxaan ay ka sheekeeyaan dadku ugu celceliyaan waxa weeyaan Allahu musta'an waqooyiga koonfurta markay isu tageen ma shacabka wax ismiyay mise siyaasiyiinta iskiyaan talabaad meel laga soo gudbayno waxa soo wax mar hore dhacay tabcan meelay markii dambe Xasan Cali Abubakar meelay madaxweyne ku xigeen oo ahayn kacaankii meelay habar jalaay saaqayn hadii marka hore xitaa inta yardisi meelay ra'iisul wasaarayaal soo qaban oo in cigalaan soo qaban oo aan soo qaban Umar Artaqal maxaa inta negative ka oo qurawn loo inta negative ka oo qurawn maxaa loo soo qaadanay ee loogu celcelinaya 60kii baa khasaare okay hadii la leeyahay talo 60kii baa lagu degdegay ay leeyihiin 60kii baa lagu degdegay oo midnimada waa lagu degdegay oo maanta marka Itoobiya lagu wareejinayo dekedeedii berbera miyaan lagu degdegin miyaanay bahdilaadahayn miyaanay nacasnimo ahayn tani maxay midadka miyaad ka aqoon badantiin oo ka maskax badantiin kuwiina yar talabaad 40 odaya sheekada markaan burcaan ku qayleeno wixii aniga looga sheekeyn jiray intaad media la soo fadhiistay markaan yareynay adeer anagu waxaan wax kasta oo soo maray magacayaha burcaan markaan ku qayleena baa odayaasha deedeysan ee qabyaalada weerarso waxaan jiray midnimadii 60kii lagu khasaaray hadda burcaa wada khasaaraba noqotayba مثلا كنا نشنادا markaan iskuulka aadin adar hadii midnimadii 60kii lagu khasaaray way gooni goos qanka maxay ka faa'iido ilan waa tan laamiyadii hantidii dawladii Maxamed Saabra noo dhistay waxba lagu ma korin hospitaal qura lama dhisin iskuul qura lama dhisin Allahu musta'aan wax barashada free ma boardka Saabra uga duulay siigada deegaankii waxba laga qaban maayo dhuxushii dhirtii waa la baabi maxaa soo kordhisay qabiil ahayn ونحن ويسرينا ما أنت هبر شلون مدحوينا ما أنت كلا مهبر نسبة مدحوينا ما أنت كلا هبر أول بقى مدحوينا ما تاس ما حد عرض بقى ما البحني ما مو محينا كردي مسواس بينو نقول أنا قاعد أردبا هيلا إيماننا إذا كنا سوشيال ميديا وان كبوفني إيال كايرو إنا يرو قرص مرسو معلم بورسوي كيسيو أنا قاعد يرو هاي سوشيال كيسن هاي سوق حيسن full of nonsense وكهلا يا هذا سومالي وحي ما أنت ودي شركة maalintii dawladnimada imikana wallahi baan shaqeynay oo aan qabiil quro oo Soomaaliyeed sharaf keenay ama daarooda haw ama hawiyaha ama isaaqaw isku duubni iyo midnimo wallahi lagu keenay horma sida Itoobiya waa ku asal maanta kala yaan okay alaan su'aal ku weydiinay 1991 Itoobiya waxa la riday Allahu musta'an migistal warragam failure state kaaniga ay soo dhageysan musabix waa failure state نكلا وفيلر بوليتيشن سيلاي وبهدليه هي وفيلر ويان أدير كاعد هنا وفيلر سيقول يسوي كله قرني ما جشمال قرني ما هذا مستعينتو وروحنا وحمي هين وحيوان في سياد برا تدك كاي بيها مع إلا كوا بولان شو قاعد دولي كاسكري هبا يرى لكن كوا وحنا اللي فيه الله إله نبى الله ونحرسنا نك الرجع وأنا كخلت كيس سكرت عبد الله يوسف الله ونحرسنا محمود أنا جيس كاس أنا واقع وروحنا كنت دقني ولا هذا السنة هذا المودنا أنا السنة داعسه دولتي سياد برا مبين هدي بلاهين ما تنا أنا أقول وحنا واخر وح شقينا نادر معها فكرنا معها أركتنا معها أنا أقول حقول الله يقول استنا وحويه الرير كان ده نسوى ده أنا مركي وح كلي وين عبد السلام شتنا أي واحد هذا إلى هم تنعبين وإذا واعي ده وح صاع ده يو حتى هذا ما هي شنانو هالنيو وحبرشانو هالنيو عافمات بانو هالنيو أرمي سوشيال أرمها بلشة وحنا لقى قبته وح صورن كيرتي ما أنا إذا عاي أنا ويساق معنا شرفت وذا شعرك قبل نمو وذا شعرك تذكرنا اسمنا سو قارين وأنا كنا هذا البطن إذا ما شوابي وأنا نعرفها واحد مثلا دت كاجي بعض واحد دت كيجو دوا صومالي يقول هذا قبيل كاجي وحملته هنا واحد هذا يساق شرفت وذا شعريه كرامه حق أنا ويشوفه قبل نمو يساق ونوح كشرته إيه دارود إيه هوية إيه صومالي أو دمبا واحد كشرته دولة نمو يتوبي ما أنت الربي rag baa ahaan iyagoo kala weeridi migista meesha ka tuuray tii dawladnimadii halka inaga ay warshadihii gurteen ee wax kastaba baabiyeen halkii bay ka sii socdeen tagraygu ma samayn ama xaaradii 30 sanadood garaacisay 30 sano inaga wax yar baa dagaalamayeen oo aysan afar isteetikii waliba ay aysan qayb isaaq aysan mu baadee dagaalamayso aysan macala qarrag daarooda maca fikir ahaan u taageersanaa iyo hawiyaa markii dambe hawiyaa bay la riday dawladii maxaan been ugu sheegnay مياني هوية عيديد يو اس يعني نردي ميانو إنه عمر تيسن نردي ما يساعد ما أنت شو تيجي دولة دردي ها عيال كبنت وش شاقة سنة بنت هي بلاد مياني هوية لا كده قلمي مياني هوية مع الدارات بالين سوكوا ما تعالى كيو دسته
hawiye daaroodna daaroodka gam loo joogsan war cuqdadan iska saara iyo xanuunkan iyo nacaybkan ciyaalkan yare waxaan soo dhageysanayno niyo ama iyaga raac ama Soomaalinimada saxda u soo noqo annaga adeer waxba noo maldihi karimis inta doodayar noo soo kaxays macaalaka bidaartoodu yeeranaysa soola entertainment ku wanaagsan anu ciyaal baan aqaan ay maalayaan qofka hadaano den weynaan iyo da waxa ma tarto laakiin waxa ka hadlaysan macna ma sameynayso iyo istusnimo taasaan aqaan okay Ethiopia markii ay taaliga ridi wa may bedelin amxaaradii lama dagaalamin dalkoodii hore u sii socdo maanta dan caaw meedka u dambeeyay kala siiso waxa fashilmay arrinkii la oran jiray Tigray wixii la oran jiray in Tigray ay boqortooyo meesha ku saastaan maalmahan oo dhow ku kisray xisbiga hada EPRDF way ku midaysan waxa ku midaysan shucuubta koonfureed sidoo kale waxa ku midaysan Tigrayga amxaarada oromada waxay dareen laba mid bay kala doorteen in Ethiopia ma duntaba iyo in oromo markii hore maamulka laga ilaalin jirayba oo la iska ilaalinayay in maanta markii la arkay power code iyo sidoo wax socdaan waxay ka door bideen Tigraygu inay dalka Ethiopia burburiyaan oromo waana jecleen waliba nin muslima bal adigu isu qiyaas bal kombe oo taas barbardhig waxay garteen in ninka oromada maanta uu xisbigii EPRDF ay u aqoonsadaan walaal Ibrahim WhatsApp kan soo dejiyay mooyo kuma soo garaac karkana live bank ka jira numberkiina waa kan umada Soomaaliyeed halka waxaan uga sheegayaa walaalayaal laba number baan leeyahay ka breefka baan qaataa kan de guriga kaga taga meelaha iska yeelaa inta badan marka waxay garteen in wax la yiraahdo inoo sheegay barnaamijkan Ethiopia inay dunto in nin muslima ay maanta oo gudoomiyaha ama chairmanka xisbiga loo oran jiray EPRDF ka baara waxay tahay warbaahinta faana ay marwada soo diisay inay ninka u doortaan isagana bedeli doona ninkii loo oran jiray Haile Mariam Desalegn oo prime ministerka new prime ministerka la yiraahdo Ethiopia isaga noqonaya maxay burburin waayeen Tigray maxay EPRDF maxay u oran waayeen Allah musta'an aqligooda ka shaqeeyay maxay u oran waayeen niyo waa oromo oo la heshin kareen soo Tigray maanta ma ogolaan birina isaga hogaaminaya isku duubnida bay ka doortay innagana waxaynu noqon runtan ma doonaysaa run kelmadda meeliga gunta idukuna wada qaata kuwiin yar jeeganta ka soo cadhooday oo qaata saacad musaya warshada ka soo cadhooday kuwiin yar midnimada ku ciyaaro oo qaata dumarka wax la dumarka haweenka ma caayeen kaba ayma ama hadalkayga waan ka sii afeeftaa laakiin waxaan baan ka hadlayaa TPL way fashilantay waa ma siibo ko walaal wallahi ninkaas waa Fariid Maxamed Dayib waa nin dunida la socdo maskaxiisa furantay maaha dadkan qabyaaladu saacad ka fadhistay dumarka hadiya jeer gabadha marka la furo way dudaan hadiya jeer dumarkiinu de sida caadada ahayd dabna caruurta sii qaataba qaar badan de markay dudaan hooyada iyo aabbuus jiraan isaga waxaan noqon bil kelmadda meelga qura niman duday ayaa sida caruurtiina sii qaatayba gabigeeniba waa niman siyaasiyiin oo iyagu duday oo siyaasiyiintii kale may tagaan maxaa hankoodii hoos u dhigay maxaa ninkay isaaqu diiday inuu madaxweyne noqon karo challenge sameeyo ninka yar runba diidaysan madaxweyne maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa nin mareexaana waliba waa la eedeynayay Soomaali oo dhan baa eedeynaysay hawiyaha eedeynay oo waa mareexaan oo siyaad bare adeerkii ahaa okay gadbu leeymiyahan hawiyaha la tartamay daaroodka kala la tartamay nimankii ma jeertay boqortooyada kafta kala macaawarin ku darayna ee oran jiray boqortooyaan ay de ma jeertay madaxa taagi jiray ayaa la tartamay ma bumbay samaahinay mise waa loo joojinay bismillah mid kalena waan idin sheegayaa midigteedu waa tan kameradan hoos joodiya waa tan bidixeed dad badan baa waxay wadaan waa midigta ku cad ma jeertaankii baa la tartamay wuu ka helay inta saasaa doonaysaa in wax laydinku sheegeen ogaadeenka kale maca faraha badan dee way tartami kareen hawiyo ha la tartami habar gidir baa hiraab baa la tartamay wama habar gidir ha noqdaan ama abgaal ha noqdaan wuxuu way la tartamay isaga ka soo dhaxay innaga maxaa inoo diiday ninka isaaq inuu damaca yeesho maxaa u diiday soo sheekadu ma aha gabadhii duday caruurta sii qaatay soo qiimaynta iyagina dudeen walan Allah ya ciise hogaamiye xamse aabaan ku salaamaya nin meel dhaweyto iga raale ahaada ninka yar waa isaaq xalaasha dhabta oo nin yar reer berbera wuxuu ka dhigtaa jaamacad isku qadiyad baan nahay waa ragga saxda ah iyagu waxaan faahsan inna la duday oo niman siyaasiyiin madaxa nagu sii qaateen garanay marka ninka yar nin meel dhaxaasa Bangladesh 6 arday baa laga afduubay baan meel ka akhrisanayay walaal oo 6 arday waan ka xumahay aduna ardayda Bangladesh baa tahay de wala telefoonku sawkan telefoonka hadaga soo garaacsan waa caadi waxaanu noqonay buhana la duday ba niman baa la duday marka waa gabadhii la duday waraadar dad wanaagsan baan ahayn isaaqo dad fiican bay ahaayeen
dad wanaagsan baahan laakiin siyaasiyiinteeda waxay noqdeen dad bilaahana oo bilaa waxay noqdeen aan hankooda ma dhaafay waa kaa soo xamisiinaayo oo balaayo ka dhigaynin ayaa guri yar Dubai looga sameeyay dekadii berberaba guriga yar buu dhaafay wasagii Sansiris ku soo sawiraya meelahana wallahi ku hayay sawirkii idinkuna waa arki doontaan waana soo dhigaya page-ga wallahi soo dhigay guriga yar looga sameeyay meesha la yiraahdo Dubai taas waa taa walaalayaal mar labaad ummadda halka ugu soo celinaya gidaarkii maalmahan ay nagu wareerinayeen kuwa bukaan socodka waa la joojiyay ee bilad xaawo shirkuna wuxuu ka dhacay magaalada Laahdan Mandheera dawladda Soomaaliya wuxuu uga qayb galiyay wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee Jubaland kana xaw nafta waa kuwa xanuunka ahaa madaxweynahana ka soo shaqeeyay madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo Allah hadayo Allah karaamayo iyo markay telefoon-kooda hadleen ninka la yiraahdo madaxweynaha Uhuru Kenyatta waxa la isla qaatay in gidaarka la joojiyo waana la hakiyay sheekada Soomaaliya naga soo afjarantay qoliyada mucaaradka ah inta wax ka daayay sidoo kale Jawaarina waa loo fadhiisanaya waana laga diiday arrinkii uu lahaa tashuushka ku furayay fadhigaasuna uu dhici doona insha Allah taala odagaasuna waanu si duceynaa isagana oo insha Allah taala meel khayr qabta kulli taasuna wata waxa kale Soomaaliya uga qayb galiyay gudoomiyaha gobolka Gedo sidoo kale maanta walaalayaal waxa uu madaxweynaha dalkeenu madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo uu ka gudoomay waraaqdii safiirnimo ee safiirka dawladda Mauritania ayuu ka gudoomay FIFA madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare khayr niyadii qalbiga ugu duceeyay waana soconayaan xaasidoo dhan oo ku jabaya taasuna waa guul waxa kale oo loo yeedhay safiirka Allah musta'aan u fadhiya Imaaraadka Muqdisho oo arrimihii laga hadlay murugsana xaaladna waliin kala hadlay laha waxa xafiiskiisa isaguna ugu yeedhay wasiiru dawlaha arrimaha dibadda ee Soomaaliya maantana waa loo yeedhay arrimahaas laga hadlaya taadi ka daabarbaraya arrimahaasuna way isku dhamaanayaan gidaarkaasuna way naga soo xidhmayaan laga mana guuleysan doono teamkeega daacadda Allah raxmaanka noo daayo akhbaaraad kale ugu dambeeyay waxa kamida Allah musta'aan taasa kamida waxa kale walaalayaal dhibaato ah oo aad la yaabaysan maanta qoliyahan hargumeyso waxay eedeynayeen oo taasuna dhibaato ugu noqonayso Sacuudiga ay dhaleecaynayeen waxay dhaleecaynayeen nimanka la yiraahdo Xuutiyiin wallahi niyo xamsoon dadkeenu duceyn waxaan ka baqanayaa berbere iyo Hargeysa iyo Burco nimankaas dadkayna aan ka soo maqanahay inay dhibaato u geystaan tusaale ahaan xitaa imka magaalooyinkan kale ee dunida oo kale maxay la caasimadaha Afrika oo dhow waxay leeyihiin waxyaabo qalab ka qabta xitaa danabka oo kale tusaale ahaan danabka oo kale war dadkan deeyo waareen danabka madaafiicda iyo gantaalada ma haystaan bal imka markay dhaleecaynayaan Xuutiyiinta haddii Xuutiyiintu inta Sacuudi ka soo jeestaan berbere ku dhuftaan ka waran ilaahay nagu ma keenay ama Burco ku dhuftaan ama Hargeysa ma aqli ba ma garasha maxay tahay miya wax laga fakarayba talabaad intay xagga ay isku qaadayaan inay Xuutiyiinta dhaleecayaan diyaaradahan joog hoos ku soconaya maanta dan dul heebanaya oo duwin ee macaanta guranay may ka hadlaan oo dhaleecayaan midaadan waa maxay diyaaradahan Allah musta'aan nagu lidhaahdo meesha lahaado oo duwin oo seerac soo galiyay may am xarada ka hadlaan halka ku qaaday taasuna walaalayaal waa garasho xumada liidata ee nimanka naaftoobay ee gobolkeegii magaalooyinkeega naga aftoobay ee ciyaalkana ku seexiyo beenta iyo waxaan shaqaynayn ee boobka hantida guud boobaya oo iyagana waata talabaad dadka waxay ugu soo celiyaan anigu markasta waan gudul istaagaya nabad baanu samaysan nabad baa sidana de ma sha Allah nabad wala samay laakiin Puntland iyo Somaliland bal farqi u dhaxeeyo waa Puntland waa nabad police bilad military bilad madaxweyne ay doortaan bilay soo doona baa ku yimaado kanaba khaynibu ku yimid ma musabix baa daacad ku yimi cadaalad waa lagu shaqeeyo waan ogaayay barku waa kii guura bahaleeyay ninka la salaaman galay aan ogaayay oo la istaamirinay ninkii la oran jiray cirra la istaamirinay cirra maanta ooyay waa la boobeetay oo inta iska daayo Soomaaliya calankana la idinku laayay calankiina raaco iyaga ka talaasan Cabdiwali Gaasna waxa doortay iisamada iyo baarlamaanka halkaas doortay waa madaxweyne isaguna maamul goboleed musabixina waa madaxweyne maamul goboleed bal waxa farqigan u dhaxeeya Puntland iyo Soomaaliya in Puntland ma laha dawlad baanu nahay qordinta iyaguna nabad bay samaysteen Garowe waa nabad Boosaaso waa nabad Galkacyo waa nabad Qardho waa nabad magaalooyin kala badan ay soo tiriyo waa nabad Galmudug waa nabad xaaf iyaga doortay waa maamul madaxweyne leeyihiin waxay leeyihiin police bay leeyihiin military bay leeyihiin Galmudug leh Somaliland waa saas Jubaland ka daarig kan isaguna baydhaba haystaa waa la mid kala yiraahdo waxaan khiyaarigan la idin sawiraya waa maxay aad ku ganacsantii wuxuu dhan wax ma soo kordhinaya wax badan iyaga laftigooduna dawladda federaalka aan baa wax kasta oo soo maray wallahi mashruuc kasto dalka lagu horumarinayo dawladda federaalka ayuu uu soo maray sida Puntland baa uu soo maro Galmudugna uu soo maro Jubalandna uu soo maro
dalkana meeshana talabaadna isaaq u dhaaf maxaa xitaa loo isu waalay maxaa loo waayay qof aan isaaq ahayn oo social media ka qeynay oo difaacay ina waa tan anigana tuka balcad baa laga dhigay maxaa loo waayay markaan idhaahdo waa tan oo gebiga wax dhan waa caybu wada warcay ma wada waxna caqli ma hadee maanugu dadka ma caayo isaaqna ma caayo laakiin runtii baa cay noqotay weligeena aanu saasan ku wadaya waayo nin iyo gabadh waxay guddoonsadeen cabdisalaam wuxuu aragti ma aho waacay idinkana tiinu aragti ma aho waa qabyaalad weeyaanoo qabiilkiiba ay kala wadwataan muusana waa isaaq cirana waa isaaq faysal calowraabana waa isaaq saleebaan galna waa isaaq silaayana waa isaaq taliyaha jananka boolisku waa isaaq ka militarigu waa isaaq ka marinisku waa isaaq ka taraafikeedu waa isaaq baarlamaanka majhuuratigu waa isaaq wasiirka arrimaha guduhu waa isaaq ka dibaddu waa isaaq ka maaliyaddu waa isaaq ka warfaafintu waa isaaq ka maxkamaddu waa isaaq marka maanaa idinkuna dee tiinu waa isaaq oo anigana waa cay idinkana waa qabyaal dayana isku ciyaaray saaxiibya haddaad aniga intaa ugu haystaan intaas uma lagu haysta uma hadli maaysa dee liibaanka yaroo kale ee ku wareegaya qabiilka iyo waxa anigu waxba isku wada qaad ay kala qaadina maxaa ku habar janaa khaldan maxamedka imaano habar janaa waa rimaha gudaha miyaanu allahu mustacaan miyaanu kan labada gole miyaanu habar jeclahayn miyaanu saleebaan gaal habar jeclahayn maxaa aniga waa wada khaldayntii waana siyaasiyiinta fashilmay dhammaantood marka ama waxa la yidhaahdo allahu mustacaan faysal cali waraabaa fiican iyo cabdiraxmaan ciro wuxuba maanay saaq ahayn inagii baa dadka waala anigu taasaan idinla daba taagan db walna wallahi inaanay berbere qabsanayn inaanay u imanayn baan kudhi safiirkii ku biicaba oo ku seexda cayda iska wato cayo dadka caayo laakiin se db walna wallahi inaanay berbere qaadanayn inaan imaaraadna saldhig ka samaysanayn arrinkeeduna qaramada midoobeyna uu gaadhay sidoo kale meesha la yidhaahdo waa looga yeedhay muqdisho imaaraadka safiirkooda arrin diblomaasiyana lagu dhamaynaya madaxweynahan iyo ra-iisul wasaarahana waa rag soomaaliya u soo jeeda waxaan tusi doonaa alla iyo ciise walaalayaal ra-iisul wasaarahayga iraan jecelahay alla hadaayo dee waa nin yaroo dhalinyara hankiisa iyo qabkiisa halkaan la yimid wada sheergaraya bal maanta siduu hadlayay daawada oo guul iyo gobonnimo kale waaban ilaawi gaadhay walaal shabeellada hoose oo qalalaasihii iyo dadkii wada deganaa ee soomaaliyeed ama hawiye ha noqdaan ama dirka ha noqdaan oo iyaguna insaaf gartay iyo ra-iisul wasaaraha bartan ka hadlaya ama sida raggaasaa loo hadlaa qab loo yeesha ama muusow yaa tollaayay ha noola imanina tollaaya baad ku wareegaysan sayaa isaaqow waanu difahnay waana waalaysaan jar baa naga tuuraysaan wada quxuntimaanay waanu soo wada taariibnay dhibaataana wada haysata marka niic looma baahna daawada walaa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha isu kalsoon ku idhahda ra-iisul wasaare la casiliya iyo madaxweynaha astan yara suga allah ya ciise فيفا خير ما شاء الله وعدتين إنه غير اللي بحكي قاطي إن ما أنت إنه صورة كشوين على كرسونا أروح أقوى رجل مستمر إنه لكم مي وضيار بدر على كنجوجا سياسيين على كم فردية اللي بعمل على كم فردية إذا ما على كم فردية يستجوا كلا حد لاي سيجينا أهمية جاء إن ما أنت إنه صورة كشوين على كرسونا madaxweynuhu waxaa kaloo ballan qaaday inuu sii wadi doono dadaalkaas isaga iyo dowladda uu madaxdu yahay ama hogaamiyaba intaa aan ka hubinayno in heshiiskan uu ka gaarayo ama dibashiintan ay ka tegayso meesha loogu talagalay aad ayaan ugu faraxsanahay maanta inaan halkan joogno aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ka shaqeynayno mid ka mid ah hirarka dowladda madaxweyne farmaajo iyo xukuumaddeena mid ka mid ah waxa ay ummadda soomaaliyeed u baahan yihiin oo ah
si dalkeenna hore ugu maro si nabad loo helo inaan annagu marka hore qalbiyadeena isu furno oo heshiin maasha allah arrinkan isaga ay waxa uga duwan yahay kuwa hore waa dib u heshiisiin hoos laga soo bilaabay waa dib u heshiisiin dadkooda ka soo go'day waa dib u heshiisiin idinku aad xoog u bixisaan waa dib u heshiisiin idinku aad xoolo u bixisaan way noogu yimaadeen dad badan oo gobolkaas ka soo jeeda iyagoo yiri ra-iisul wasaare madaxweyne annagaa waqti gelinay annagaa dhaqaale gelinay waxaan rabnaa inaad gacan naga siisaan waa dib u heshiisiin runta la isu sheegay kuwii isdagaalamayna ay halkan ka qareen kuwii lagu kor dagaalamayna ay halkan cafi ka fidiyaan waa dib u heshiisiin u muuqata inay keenayso istiftiin cusub oo ummadda Soomaaliyeed u baahan tahay gobolka la isku dagaalay waxa uu ahaa gobolkii inta badan quudi jiray ummadda Soomaaliyeed waxa uu ahaa gobolkii ummaddu ay ku faani jirtay waxa uu ahaa meeshii loo dalxiis tegi jiray waxa uu ahaa meeshii buugagta dunida laga aqrin jiray meeshii iyada ahaa inuu Sheekh Maya halkan soo istaago uu yidhaahdo gurigeenni iyo masaajidkeenni waan ka soo baxnay halkan guryo kira oo aanan awoodin ayaa ku jirnaa waxay leedahay qof walba oo mas-uul ah inuu ka danqabo macnaheedu waxay tahay si dadkeennu ay u helaan nolol ka wanaagsan tan hadda ay ku jiraan waa inaan qirannaa inteenna qayb dagaal ka ahayd siduu sheegay wasiirka halkan soo istaagay inaan ka tanaasulnay dagaalka waa inaan aqbalnaa cafiska ay noo soo fidiyeen kuwa lagu kor dagaalamay laakiin waa inaan kulligeen isku raacnaa oo aan idhaahdaa qarannimada ayaan ka hormarinaynaa danta gaarka dowladda federaalka Soomaaliyeed iyo dhammaan dowlad goboleedyada xubnaha ka ah iyo dhammaan madaxda Soomaaliyeed waxaan ugu waajib ah inaan ka fikirno halkan mar walbo annaga dhexdeena uu ka jiro dagaal mar walbo gobolladeena lagu dhex dagaalamayo waxaan xoojinaynaa cadow yes haddii gobolkaasi aanu nabad ahayn xamar nabad noqon mayso haddii xamar aanay nabad ahaynna Soomaaliya nabad noqon mayso haddaan xamar nabadi ka jirin horumar ummadda Soomaaliyeed kuma talaabsan karo maadaama ay sidaas tahay marka waxaan ka codsanayaa dhammaan madaxda kala duwan ee halkan isugu timid gaar ahaan odayaashii soo bilaabay geedi socodka dib u heshiisiinta waxaan ka codsanayaa inaadan ka daalina waxaan idin ballan qaadayaa anigoo ku hadlaya magaca madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya inaan idin garab taagannahay inta laga helayo nabadwa inaga kinwa ko kalaye onab malay shaqay وعلنك الله وعلنك إنك علنك هو قلوب علنك هو عين ورنك أسوق كله بهاي هاي ما شاء الله قولي قبنيمو سومالي لو بهنا نون جبي قصول صوت عن السعفي بما يلا وحنون يدك عقدتك وأبوريا وكأنه ورجع دنيا ورجع مستقبل الصومالي كيف كريه ما شاء الله الله نودا يا خير حاسس كيسنو فربنا حاسس كخير وحاسس كأمة الصومالية نقدر على هذا وحاسس كأمة الصومالية والله يقبل مدو كاسيو كتشتا قلوب على كده وعين لكن قبيلة يقولون كيو حاكم شرتو ما شاء الله وقولي يقبل نمو أرتواتا وذلك الصومالية شباب الله هو السنة لبعتوين كده عشرين يبرشوا ولا لها ama biyamaa ha noqdaan ama walalaha kale hubiye habar gidirowtiga ha noqdaan waa Soomaaliya oo inaga meesha wadaray waynu ku heshiinayna Allah noo daayo nimanka yarna wax kale lagu ma haysto jawaasiista faraha badan ee macaqaar baarlamaanka ku jira oo iyaguna ah u shaqeeya xiddigta xagan soo jeedinaya u shaqeeya wax la yiraahdo sirdoon midhan iyo balaayo baas baa walaalayaal dadka niyada ka dilay oo aan Soomaali sax ahayn iyo kuwan kale afarta hargumaysi iyaguna hargeysa ka taliya oo gebigooda waa afarta hargumis
bal ilaahay baan ku dhaarsan allani wuxuu han yaraa oo hankoodu gaabana xoogay euro dollar ay la soo siimsa lagu yiri berbera iibiya wariye way ogolaadeen inay berbera iibiyaan hargumis kuwaas maanta leey qadiyad iyo gooni goosad maxay keenaan intii odayaasheedii garteen waaweynaa ayay garan kari waayeen mucarragii garashadu waa markaan leeyahay war cilmi uma baahna professoradan suurooda hay garan Axmed Samatar bin Arag Ali Khaliif bin Arag jawaari ku daray isagana waxaan professorada sheegtoo dhan odaygeena kale yiraahdaa bismillah ee yiraahdo baalki Allah musta'an bismillah waxta ku ciyaaraya ee yiraahdo buuba waa professor lagu wada khasaaray raggi dadka wuxuu sheegay lahaa qof baa soo galay suusu dadkii lagu wada khasaaray walaal haddii qofka ay soo garaacayo adigoo raaliya number kan baad iga soo garaacaysa waan kugu soo celinayaa adigaan live-kayga jirin waxa weeyaan eber 3 warbalu sheega todoba waqti English ama respond ku qoraya waxa weeyaan eber 3 todoba 5 3 9 3 5 eber hal afar bulshada Soomaaliyeed walaalayaal aad baan dhabantiin bidin jecelahay wal mobile waa kan kaga jiro midna waa kan waan ka tagaa maalintii hawlahayga gaarka baan qabsadaa qoliyo Mareykan jooga kuwa Australia jooga kuwa New Zealand jooga way soo garaacdaan gurigan kaga tagaa walaalayaal oo danahayga mar noloshan idinayaba waa kan imika dadka Minnesota ka soo garaacay hello assalaamu alaykum wa alaykum asalaam wa rahmatullahi wa barakatuh waliyahan ma taqaana Ingiriiska waxay dhaahdo long time listener first time caller war Mareykan baa ka soo wacaya code هاي سيف عمله برنامج كواداونا سامان مرانه war ilaa ay waagi gentleman baa kula socda waa cilmigan ay waxba waxyar inaan hal oo wax yar ku sheego qolyahan maaragtay Facebook ka xirayay boonku daba socdo aniga cilmigan computer science ka bartaa hal wax baan rabaa inaan halkan laguma xiro Facebook halkan ma xiro war Facebook uu badaay walaal imka page baan leeyahay page future of Somali Facebook buu naga soo wareegay waan ogahay de future Somali inaan furatay mar baan rabay inaan kula soo xiriiro ku dhaho hab la sameeyaa jirta laakiin waxaan rabaa inaan u sheego raggaas ayaga waxaa ku mashquulsan inuuna Sayyid Cabdullah Xasan Facebook lahayn una madeera lahayn una gaadi lahayn oo dadkan maqtal daahir una lahayn dadkan waa dad isbuminaya ma ogtahay waxaan cilmigaan anaga Mareykan u joogno oo naqaano day wasting their time yes absolutely waxaan ku sheegayaa dadka police mariska Soomaalida waxaad ooga sheegtaa dad waxaa jiro wadan iska dhigo wadanina ahayn waxay doonayaan Soomaali baan hadda Mandheera oo kala arinta iyo arintii qalbi dhagax anagu adeerka anaga iyo ilaa UN tagnay ilaa Washington DC tagnay safaarada Farid alla yaciisa walaal arrinkaasaan doonayaa hore ugu soco magacaagna ii sheeg kulin waxa iga soo garaacaysaa Mareykanka Maxamed Dayib waa hadda takad koor baan wada u soo qoray TPLF Maxamed Dayib TPLF ka ninkii soo qorayay adigu adeerkaaga qalbi dhagax qaar baa ku raad gadanaya hore ugu soco war shar garay barnaamijka yaa wadaniin warbarka waxaan ku sheegaa mataqaana waxaa jiro wax la dhaho wax hab human rights jiro oo waxyaabaha qaarkood ugu raadiyo ninka hadduu rabo arrinkan Mandheera kaaga sheekeeyay dadkan ma yaqaanaan xadka magaalada Dublin ku noolaan jira anaga banoon ku ciyaari jirnay xadka kuwii meeshii aan banoon ku ciyaari jirnay miilada dhigi jiray ayaa hadda kula Mandheera u dagaalamaya anaga banoon ka ciyaari weynaa waxaan Mandheera u dagaalamay Farid ilaa amarkii badana dadka goorma isbedelay kuwii dhoobay miinada dhigaya kubadda ka ciyaari kari weydaba waxay ku leeyeen maanta Mandheera u hadlay dhawma kubadda waa ka ciyaari kari weydana miinada idin dhigay wiilasha Soomaalida ee militariga Kenya ku jira intay noo imaadaan miinada naga saari dadkii Soomaalida magaalada nala deganaa adeerada ahaa miinada ku dhiga kuwii hadda wadan iska qaadiya waa $100 qaadanayo Soomaalida $100 ku xiran absolutely Allah anaga soo qabto kuwa waxaan ku leeyahay mataqaanaa dadka Soomaalida iska dhigaayo markay Facebook soo galaan ama marba meel isku qabanaya inay dawladda ku guriyaan anaga hadda maalinkii ay dawladda ay oo naftaay yani waan ka xaraaqay markay qalbi dhagax jirto waan ka xaraaqay laakiin waxaa jiro hab international wax loo raadin karo because oo nafta Mareykankana aqoonsan dawladda Soomaaliya hadduu ay khalad ay samayso wax macna ma yeelanayso laakiin dantii guud waxa loo burinayaa waxyaabaha qaarkood moogta war marka dadka
nimankan Facebook ku jiro oo rag badan oo mataqaanaa ninka khayr ilaaha siiyo bilow tulooyin badan buu sheegaa laakiin magaalooyinka jubbooyinka ma sheega moogta sax qablo faarax walaalkiis ninkaas qablo faarax isaga dee meel baa xabad ka ridnaa isma waa sax nabadii nolol baan ku wada soconaa isaga intaa waan ka midaysanay allah daaya waa nin adag weeyaan nimankan hadda ka hadla maaragta ama idaacadaha ka hadlaan Facebook ka hadla waxay raadiyaan position wax la dhaho waxaa jira Soomaalida wax la dhaho assimilation waxba la isku ekaysiin waa la isku kaasoo ekaysiin laakiin pointiga loo socdo waxay tahay dowladdaadii baa duulaan lagu yahay absolutely waliba dhacdooyinka markaa taagan bay ka hadlayaan masay shacab badan iyo hal lagu daawado iyo wareedhe waxa nin badan baa ka hadlaynay ama dalka caadi dowladana bas dowladda tashuush bay ku furayaanba iyo ku kicin dad maalmaha dhan war dadkii waalid exactly waxa la rabo waxay tahay hadda qolyahan hadda maaragtay hadda nimankaan maaragtay waxaa jira kuwan hadda Somaliland maaragtay mar kasta si fiican wax ugu shaqeeya ilaahay khayr ha ku siiyo dee wax 27 sano oo la soo wadaaday ma bedeli karo waxaa jiro mataqaanaa dee nimanka adiga daris baan nahay qabiil ahaana dee waa isku dhownahayna maalin kastana wayna diibaan markaas kuleeyahay hal nin oo Soomaaliya diibtaan ka hadlayna warta idinkaa maalin kasta diibeen ma taariga dirsaan ilaahay shaqasta waad mahadsantahay walaal maxamed kole telefoona kana laga yaabaa inay soo galaan oo dadku inta badan way soo garaacaan laakiin walaal time-kan kala duwan different time baa jiro waxa laga yaabaa inuu gurigaba ka maqan baalkana kaba tagayba in laga soo garaaco marka wixii dambe waxay saadaan haddaan baktiyana qofka waxa dhacday cajirad baa ka qabato lacag bay ka goostaa marka inaanan qaban baa u fiican oo uu garto marka la qaban waayo iska daayo haddii kale dee lacag baa ka go'aysaba waxaa rabay inaan kuu sheego waxaa jiro mataqaanaa dadka oo qaar markaad Facebook ku jirto program soo diyaarsatay waxay u soo galaan inay kaa khaldaan waxyaaba qaarkood soo qoraan kuwaas intaa ignore garaysid programkaa soo diyaarsatay ku soco haye shukran walaal alla ya ciise insha allah waa saare calaykum assalaam aad iyo aad baa umahadsantihiin walaalayaal bulshada Soomaaliyeed barta ay ka daawanaysaa kolley dee waxay noqonaysaa haddaba inaan soo dejiyo WhatsApp-ka waan iska yaro tuuraa insha allahu tacaala waxa weeyaan waa numberka waxa weeyaan eber 337533935 laakiin inta badan waan wada salaamaya walaal meel aad ku sugan tihiin bulshada Soomaaliyeed mar labaad waxaan idinku soo celinayaa arrinkii beled xaawo kolley dadku dee live baan ku jiro muddo badan baan ku jiro qaar baa imika la kulmay arrinkaa waa la soo afjaray waana la isku afkartay kadib markii madaxweynaha qaranka mudane maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo iyo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ay ka wada hadleen khadka isgaarsiinta oo arrinkaa xal waa laga gaaray marka maantana wuxuu shirku ka dhacay degmada Mandera dhinaca Soomaaliya waxa uu matalayay gudoomiyaha gobolka Gedo sidoo kale dhinacan sidoo kale waxa ku lamaanaa isna la socday wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee maamulka Jubbaland waxaana la isla qaatay in gidaarka la joojiyo waa guriga gobonimo imka bal ha hambaliya kuwii maalmo dhawto markaan ku lahaa shaydaan uu siiyay kooxiis waninka laha daahir cala saway adigu daahir cala saway taadar anigu laakiin shaydaan uu siban oqan waxay sameeyaan ma ka hadla waanaga soo wala dhimay okay dhamaatay baarinkii beled xaawana marar hore badanna dhibaatadan dee dadka waa lagu wadawday haddaba maanta bal ka hadla DB Wall iyo dhibaatada nagu haysato iyo dawladnimada iyo horumarka waa taasoo maanta xitaa waxa kale oo walaal akhbaarta cusub maanta idin hayo waxa kamid ah senatorada baarlamaanka Mareykanka oo isaguna la kulmay mar dhexdaasa madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo oo madaxtooyada kula kulmay madaxweyne dirisita oo dadkii doonay dalka inuu badbaadiyo iyo ra'iisul wasaaraha sida oo shaqeynaya qaarna halka la soo fadhiisanayaan horta maxaa tii ciyaalkiina yara social media ku jiro anagu ciyaal baan idin naqanaa iyo cayaan ama wariye noo soo sheego ama balaayo noo soo sheego negative baa ka shaqeysan dadka madaxa isu geliya waxba wallahi meedaan isdhaan masaa iska dhigtaan balaayo anagu ciyaarka anaga dawladeeda taageersan ummadda ilaahay dadka gees lagu yiri dirac kale ahaantii dalal guusha kama helo ummadda ilaahay Soomaaliyeed baan la socon iyo dawladnimada iyo sharafta doonaysa iyo wadataan inta soo nacamlaystaan ba hebel talaba bal Soomaali in beenaaliye yihiin waxay u dhigeen bar dhaxaas 500,000 oo qof buu dawladda nabad iyo nolol ay ka shaqaalaysiisay social media difaac xal u arki way bal ma aragtaan maxaa u arki weydin wille maalin dhinac bay naga soo galaan anigii Ibrahim waan aragtaan inta badan duqbilow hadda ilaah daayo isaguna dawladnimada u difaaca nabad iyo nolol arkabal waa kun iyaga naga fara badan oo iyaga jawaasiis
kan soolo lagu sheegayna ula hinaan magacaa ku dinin soma way anigu meel lama hadlay cabdimaali wasna maanta midnimada ku meeraa soo cabdimaali waa macaan kan qaado oo saacade ama marba oday yaro saacadu kaga fadhiistay 60kii ama soo kaxaysan oo umada tashuush ka daa ودولنimada faraa kala baxalo assalaamu alaykum sallallahu wa alaykum asalaam wa rahmatullahi wa barakatuh waxa ka soo wacaya Mareykanka wala magacaaga na sheeg adoor haleya Saudi sharmarke soo dhow maxaa ku darsanaysaa barnaamijka waxaan ku darsanayaa salaamaya aad baan u dhageystaa xiliyada qaar markaan waqtiyo barnaamijyadaada si fiican aad baan maaragtay yaan ugu taageeraya inaad midnimada Soomaaliyeed ka shaqeyso waa laba arrimood arrintan baraxaawo iyo arrinta kale dibol iyo maaragtay waqooyiga Soomaaliya kadib berbero kale si fiican marka horta qadiyadaas Soomaalida oo dhan meel ay joogaanba way dareemayaan in dhulka Soomaaliya maanta la boobay boob ka socdo dad yar oo dheer magarata ah oo dana iyagu leh sax baa dadka wax ka dhaadhicanaya marka waxaan odhan lahaa Soomaalinimada ha shaqeyso maaragtay dowladda maaragtay hala taageero cusub hindi hoola hala garab istaago insha Allah taala waana xaqa guuleysanay insha Allah xaqa guuleysanaya ba xaqay baadalku meel ma wada garan hadaa istaada xitaa dadka ilaah Allah raxmaanka waa qof kasta qalbigiisa niyadiisa xaqa wala guuleysanaya adiga hadalkiiba waa dhamaysa waa ma santa Allah shukr Allah yaasha kulli walaal waxaan ka hadlay isagana oo maanta isaguna soo biiray ra'iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya waxa lagu wadaa inuu noqdo ninkan oromada ee muslimka bandi hadana khaldanayn xisbigii BRDF isku raaceen inuu gudoomiyo u noqdo bal wuxuu soo wadana taanu ka hor dhici maayo khaatumana waxa loo dhisay maamul insha Allah taala iyo gobolka la yiraahdo sool iyo sanaag iyo cayn hadalku waa yaraadaba waa Soomaali walaal hadii qof kasta dhulkiisa yiraahdo dawlad baan ka dhiganaya dadkaasuna dhulkoodii dawladda ka dhiganayaan anoo xuquuqda qofnaba ku xuquuqda isaagana waa cidina ma baabeyn karto laakiin afartan har gumaysiye nolol hor cararay ee sidii gabadh duday oo kale qabiilkiiba qaatayba adeer loo joojin maayo waxba u joojin maayo marka tashuush wallahi uma baahni waxa xilliga ay soo gariyay live-ka waxa weeyaan markaad aragtid un qof social media ku jiro Soomaalida intuu wax yar oo kale isaga soo dhigo walaal mee buu dharu joogaaye waa Ahmed Hassan xogaa waa ka yara xanuusteynka waa caafimaad qaba caawa xitaa mar fiidkiisa hore galay page-kiisa aad ka arki doontaa imika uu ladan yahay Allah daayo waa saaxiibkii isku hadaf baan isku aragtay هلو ها السلام عليكم soo dhow wala magacaaga meesha igala soo hadlaysid Xuseen Nuur Hilaaba soo dhow wala barnaamijka wala socota ma maxaa ku darsanaysa waxaan ku darsanaa waa la socday caanaha sanad xaraw arrimaha in la soo abtiro waa inta ka fiirsanaa waa daawaday sax barnaamijkaadana waa ku taxanahay oo waa taageersanahay ma baan gobol Fariid arrintan kale oo TV oo dekadaha maaragtay dardarana waa kolley waa inta markaan ka daawanayo mar in qadar Suudaan iyo qadar maaragtay xadiid ka sameeyayeen oo dekadii wax ka kala qaadanayeen sax dekadii ku badan Suudaan konton iyo afartan sheega anaga waxaan arkaa ku qaadanayna marka dadka aan saacad ku taageersanay barnaamijka wada aad iyo aad ku taageersanaa barnaamij shukran waa Allah ya ciise goona Allah ya maana ku salaama saacadkii hay assalaamu alaykum walaalayaal in yar numberku waxa weeyaan hogaamiye xamsa oo qorba hadaa doontaad walaal eber 3 7 3 9 3 5 eber hal afar laakiin walaal idima soo qaban karayo runta fiican qaabkii ugu yaalay qaabku idinkeed ku yaala kala nooca haddaan ka soo qabo qofka ay guray soo qabo waan isku dayay adigaan qaban bakarinba ma qaban bakaraysid marka telefoonka inaan WhatsApp soo dejino waa sadeedanka caadiga ah dadka qaar iga soo garaacayaan kulli waqti xogaa baan yara haystaa insha Allah taala waa eber 3 3 7 5 3 9 3 5 eber hal afar halkaas ramalayna ku soo qurux badnaan lahayd taas waa qodob tan walaalahay arrinkaas uu naga soo afjarnay oo waa khayr iyo barwaaqo waa guriga gobonimo waxaan kaloo rabaa in mar labaad ku celiyo dadkan iyagana midnimada walaal biisna ma waa kan halkan u yaala
waxa dadkan midnimada iyo isu tag iyo gooni goostka war midnimadii baa wax lagu ahaa midnimadii markii midnimadana adiga u baahan qof kastoos waa u baahan waa indhahan oo kale anigu midnimadii waxaan ku qiyaasay oo markaan dee maskaxdeeda inay indhahaba tahay oo qofku markuu indhabeelo dee aanu socon karin dabcan hallo qofkaas uu soo miskool gareeyay hallo وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سودو ولا مقعاقي ماشي جلس هادس والله مقعاقي عبدولي وذي واحد كسر لي صوماليا مقرأ سيفي عن عبدولي وصوماليا جلس هادس برنامج كله صوماليا كم يالمولا هنا نقول شيء بمانطي تهشيس وحالك رأي شركة قدر بواحد لك شركة السودان هشيس كورة تيني تكاد وقول سيسي مقرأ هاي شن بقول مليون دولار بكل سادكة داس السودان waxay qaadatay boqolkiiba 52 qadarna waxay qaadatay boqolkiiba 49 absolute dawa taas la doonay dalkan ma xakamaysin haye 3 bilyan iyo 500 milyan oo cash lacagta aad darka heli doonto discountigeedina aan cash ahaan bay u qaadatay boqolkiiba 51 oo qaadatay Suudaan 49 ay heshay qadar laga canshuuray 3 bilyan iyo 500 milyan oo cashna way bixisay maanta qadar ma garan waa si fiican ma sha Allah dadka hantidooda iskale oo waxooda aan ka cararayn waa heshiisyada caalamiga oo adduunka la galo dawladii dekedeeda lagula heshiinayo waa in ayadu percentage-ka ugu badan qaadataa markaas inta kale percentage-keeda haddana canshuur ka qaadaysa tabaray waliba waxaas oo ugu darso dal kale baa lagu leeyahay dal kale eeg dadka ilmada iyo xaaska isu soo yeelayo dawladda umar masiyoonayo madaxweynuhu mu hadlo mu faxeeyo madaxweyne BBC iyo madaxweyne VOA ma madaxweyne qaran weeye haykal dawladeed buu ku shaqeeyaa nidaam sharci uu maraa kama shaqeeyo dayladaan iyo waawaray iyo ilmada iyo xaaska kama shaqeeyo ma garad si fiican waxay ku leeyihiin taageerada waa inuu taageerada waa kala noqonay taageeradu ma la yacni weeye Donald Trump dad baa taageeraya Hillary Clinton dad baa taageeraya absolute taageerada marka sheeganaysid waa inaad dawladdaada wax tar u leedahay $10 bishii qof bixiye ma jira diitre koob lagu sameeyo Farid boqol ma dhamma dadka bixiye Farid sidoo walba wuxuu ku leeyahay taageeraan ahay maxaa taageeradaada xigmada ku fadhida qofka dawladda farmaajo jecel buu jiraa moogta dee waa shurun waa taa gobonimadu sharafta waan taageeriyay taageerada taageera huwa taageer laakiin dalkaaga maxaad ku kordhisay hadda taageeraheed ka aamubo dadka fahmi kari laakiin dadkan tashusha ku furin waa sidaas weeye walaal macaan marka nolow geesi dhalay baa tay wadaniga taariikhdaana sheegi doonta waxa tahay walaal macaan aad iyo aad baan ku Allah ya ciise Allah ya ciise shukran wana Allo السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سودو ولا مقعاقي ماشي جلس هاديسي walaalo gentleman waxaan ka soo wacay Mareykanka Fardoos la yiraahdaa سودو برنامجك والله socotaa wala Fardoos waa la socda walaal barnaamijku maanta nabad iyo nolol soo kama hadlay ها nabad iyo nolol iyo walaal gidaarkii balad xawo la joojiyay iyo dalka hore u soconaya iyo dadkan naga badaaba dalkeena walaal leen hala taageeray dawladda iyo madaxweynaha dadaalaya oo in barbar istaago aad iyo aad doorta adinka weyni taageersanahay ilaahay waxaan ka bari inuu inay xifdiyo Abdisalaanow Allah ya ciise waan soo baxday kulligiin ilaahay inay xifdiyo cadowga Allah inaga qabto waxa waay dawladeena waa taageersanahay dawlad la'aanta ninkii qaxootiga oo Abdisalaanow ma garatay waarun anagu wadamadan aan deganay sharciyo iyo wax kasta hadaan leenahay nabad hadaan leenahay dad baa dhistay dalkeeni waa inaan dhisnaa inaan wada kacno waa ma garat waarun waa inaan dawladeena taageerno balad xaawo dawladeeni wadkaas way ka hadashay waarun wax kastana way hagaagayaan ilaahay dawladda ha noo hagaajiyo amiin ya rabbi baarlamaanka heshiis Allah dhex dhigo markasta waa ka murugnaa wallaahi waarun qof kasto Soomaali xalaal oo dhaba walaal ka adigoo inoo soo koobay kulli telefoonadii waa inagu soo furmay markoo xilliga telefoonka furaya la gaadhay waran ayo walaalo dawladda nabad iyo nolol ilaahay ha garab galo labo waxaan u sheegayaa dhalinta iyo dhalinyarta Soomaaliyeed inay waliba special ragga waxaan wadankeeda duminaya waa nimanka ma garatay si fiican please ragga Soomaaliyeed burburka naga daayo meel kasta waxa qaxootiga naga dhigaadinka weey haddii la dhaho soo bax nabadda kaalaya taageerna nin un baa laga joogi kari waxa haysta wadanka waa nin waxay haysta waa ayagii farmaajiya khayra waa laba nin oo adinkoo kala
wadaninimada iyo ragnimada ay muujiyeen wada muujiya kulligiin haddaan ragtiin hooyaa dhashay sidiinoo kale waxay u ordayaan waa caruurihiin iyo naagihiina carrada ku dayacan waa qaranka dadka qaranka kusa wada qoriya ku wada caayaya hal dumara kuma jiro waa wada rag cabdisalaanow raggaa ugu caay badan ugu buuq badan iyagaana sharaftooda iyo karaamadooda ku ciyaar bal waa kaas imika waxaad u sheegtay cabdisalaan oo barnaamijka ku dartaa khayri iyo farmaajo waa laba nin oo adigoo kale waxba haysanina wadankiina dhista waabay ku maqlayaan ba adigu intaan oran afkaaga caana lagu qabay intaan oran lahaaba adiga ay dhool farmaajo khayra waa laba nin oo inagoo kala waliba dhalinyaraan dalku dee laba qofna ma badbaadin karaan waa niman professor caalamka meesha rabaan doo mari kara oo sharciyo ajnabi haysta adinkii baa caytamaya khayrlaawa hadda waxa uu arkaya komitiga khayrlaawa armaajo waa laba nin oo rag ah oo dayaca dadkiina caruurtiina haystay ka dhiidiyeen adinkuna dhiidiyo please dowladnimo noo doona nimanka soomaaliyeed waadna rafaadiseene الله يعيسك الله كرم يا الله كشفورة السلام والسلام يا نور الله هاي السلام عليكم ولا الله يعيسك ولا السلام عليكم هذا دنا كدي ولا التليفون wargaraad kashadana aad baan ku salaamaya walaal telefoonka inta jeeraan soo qoray waad arkaysaa halka dadka dadka iyo caawiya walaalku halka ku jiro telefoonka u qora dadka kale commentiyada ku qorto xagga sare uma qorno telefoonka waxaan iska diidaa haddaan marka ugu horeysa wada telefoonka ka soo garaacayaan marka iminkaan bal mar labaad idinku celinaya hadana waa eber de malas English baan kugu sheegay malaayadu Ingiriiska joogtahay marka saasaad ku fahmi karaysaa 003375393514 garaadka shitana saaxiib saasaad ku fahmi karaysaa waa 003375393514 qolyaha Soomaaliga waxay eber 33 toddoba 5 3 9 3 5 eber 1 4 waa kan marka dhammaantiin waa biisi way ku leeyahay waran biisi maxaa ka dhigay kuma hadlaya dad halkan iga daawanayso dee mala marka uu biisiga yahay waa igu soo beegmaysa garan maayo dee mala adiga dhinaca hawadaadu biisiga yahay qolyo kale ay gule Ibrahim soo qabo hallo الو ها السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هالو ها والله عبد السلام qofka isaga bayskiisa ka jareeba bale qofka ay soo qabo hadaba bal aduu qabo soo qabo ugu هلو هلو ها سودو ولا وعد سلام جتلمان يا برنامج كنا بدي نور والله ساعة تمام في برنامج عبد السلام جتلمان أبوك سلامي المربع فاكهة وهمية أول متغنى تشبه فيني لكن أبوك صادق ربي صح الله يفتح الله ربي لكن واحد دوري ربط برشة ورقصن أنا يوم قاعد واحد على يوسف براي عبد horta in aad u fiican waxyaabo badan ka shaqeynaya tahay laakiin waxaad ka shaqeysaa mar walba midnimada wadannimada soomaaliya iyo maarata howlo badan baa ka shaqeysaa ma garat si fiican laakiin adigu lafaanta nin Soomaaliland baa tahay soo ma ma anu Soomaali baan waran maya Soomaali waa la wadahay laakiin kasoo adigu nin Soomaaliland tahay soo ma marka maanta waxay tahay hargeysa tagaysaa ma barxo Soomaaliland baa ما يميهبه أنا صومالي بانه ورا سومالندر مبكرني سومالندر معنيه هو محي ودولكي سومالي سومالي نو سومالي لا نو ودولكي برعان مركات أنا واحد وتاريخ برعات يقول أنا ريا برعان ولا قبل كتولة لكن أصلاً تكلمان ورطة لكن أبوه نحوها من مثلا نحوها يرمارتي حماسات يو خلاص سومالي كسور كذا كوارك معك كل ما تعمل صوت
walaal waxaad jeclaan lahaa inaad hadalka nuxurkiisa u daadegtid oo su-aal baad weydiisahay khasbin anigu Soomaali baan walaal mana qabo fikirka hadda adigu aad leedahay ka soo horjeed anigu Soomaalinimadana kama soo horjeedo oo dawladeedu waa Soomaaliya calankaygu aniga noo sita Faransiiska Soomaali baan ku joogaa anigoo Soomaaliya baan dhashay dawlad qura Soomaaliya leedahay waxa la yiraahdaa waa Soomaaliya wax Puntland iyo Somaliland waxa maamulaan oo aqaan hadda de wax iga sii weydiinaysa waliba maamulkan Hargeysa isagu waxa uu leeyahay ba anu fikirka ma qabo cod laga ma qaadin cid dadna afti laga ma qaadin wa afar nin baa fikradan soo jeediyay absalaati talmaano waadi aad dood maasan tahay waqtigu waa weyn yahay laakiin waxa ku leeyahay waxa u badataa dhinaca Soomaaliland oo badan ma garab nin wadaniya tahay dhinaca Soomaaliland oo badan ma garab oo sideemaan ugu bataa ama waxa dhahdaa FIFA Somaliland baa dhahdaa waan salaamaya walaal duriyada gobonnimadeedu waxay ku jirtaa inay dalkaba hogaamiso dalka Soomaaliya anu saasan ka jeclaan lahaa ma inay dalka oo dhanba hogaamiyaan maxaa u diiday adiga su'aal ku weydiinaya duriyadu inay dalka Soomaaliya madaxweyne ka noqdaan ama ra'iisul wasaare dhulka saraba ay qabsadaan ba hadda ku-su-aasha ku taagan Soomaaliya way kala tagtay 1990 88 baa la dagaalamay 1960 baa la yimid waa la kala baxay ilaa hadda wax rajaa ka socota oo midnimada Soomaaliya ka muuqata meesha ma jirto waa arkaysaa koonfurta Soomaaliya 15 gobol oo yaryar u kala baxday wax ilaa hadda ka soo laasacay ma jiraan laakiin calanka kuma kiratiin calanka laakiin kuma kiratiin oo calanka Soomaaliya Jubaland iyo Galmudug iyo Puntland wax buu istaan calanku wuxuu macna sameynaya marka dadku isku yimaadaan ay meel u socdaan ee isku fikrad leeyahay ee isku aragti leeyahay oo la soo goliyahay dayaaba isu diidama waayo walaal adiga oo ka bixin haarin su'aal baan ku weydiinaya anigu taa waa saxba oo ma jecli federalismka xitaa waa laga bixi doonaa oo duruuf ba keentay laakiin se dadka kale tagayad sheegaysaa ma Hargeysa iyo Burco waad ogtahay reer Soomaaliya reer Sanaag bayna la degan reer Awdal bayna la degan dulmigii laga dagaalamayay baynu maanta inagu sameeynaa yaa kala tagay inagu baalka oo baxnay oo inta halka u carnay baynu anagu dawlad gaaraban waruta wax badan baa ayaa jiray wax badan baa qof horta sidaba dawladda hadii la sameeyo ama dawladnimo loo socdo wax badan baa dhacay wax badan baa ma taqaanaa qaldamaya dadka Soomaalidu dad dawladnimada u bisilma marka way dhici kartaa in dadka Soomaaliya Sanaag degan ay dhibaataysanayeen laakiin maanta si wada soo gudbay maanta waxa loo socdaa in ma taqaanaa dadku ay sameeyeen dawladnimada iyo nidaamka ay dadku wada qaataan dawladnimada Somaliland ma dawladnimada Somaliland adigu saad u aragtaa ee madaxweynaha baarlamaanka majoritigiisii golaha wasiirada majoritigoodii waxa soo dhanba isaaq qora oo haystaba madax saddexdii xisbiyo Faysal Cali Waraabe iyo Muuse Bixi ma taaso sawir sidee bay bixinaysaa safiiradii ay dibadda u direen oo wada isaaqa meel la oran karin waa hal reer oo iyagu cadaaladii 60kii ka tirsanayeen Soomaaliya ay iyagii maanta sameynayaan laakiin waxa la doonayaa in waxa la saxo dadka Soomaaliya Sanaag degan ayagu inay dalkooda dib ugu noqdaan oo ay ka mid noqdaan oo ay mataqaanaa leaderskooda galaan oo political ay ka mid noqdaan oo waxa aad loo baahan yahay marka inta ay banaanka joogaan wax badan baa ka maqnaanaya taa hadda doorashooyinkan soo socda ee baarlamaanka iyo mataqaanaa parliamentarianka iman doonana waxay ku yeelan doonaan cod aad u ballaaran ku yeelan doonaan wax walba isbedeli doonaan oo waayahay hadday dhinaca kalena yidhaahdaan anagu maba qabanaba gooni goosado midnimaan doonaynaa bal ka war yidhaahdaan anagu midnimo baan doonaynaa number baa loo baahan yahay haddaan number isticmaalayno maanta waa la hayaa dad badan oo maanta kasoo jeeda Soomaaliya Sanaag oo taageersan Somaliland oo jecel in mataqaanaa dawladnimadooda iyo qarankooda ay adkeeyaan dee waayahay dhinaca kalena qaar isaaq oo anigu aan ka mid ahay baa xitaa dawladda Soomaaliya ku jiro ra'iisul wasaare ku-xigeenka waa Soomaali hadda saa u hadashina oo baarlamaanka qaybteena leenahay golaha wasiirada weyn ku jirnaa haddaad isaaqada aadin isaaqa tahay waa taasoo ra'iisul wasaare ku-xigeenkii wasiireen ku leenahay baarlamaanka weyn ku jirnaa dee qaar isaaqa waa la helaya oo dee Soomaaliya ay misno aniga kamid oo dadkaasa kamid ah ku jira dawladda Cabdisalaan waxaan u malaynayaa dadka Muqdisho jooga ee kamid ah dawladda Soomaaliya dib ma laha way shaqaysanayaan okay waaye kuwan hadaba kuwana meel oran karin way shaqaysanayaan kuwa reer Soomaaliya Sanaag iyaguna Hargeysa joogana waxay qabaan dadka fikirka nooca way shaqaysanayaan marka ma laba shaqadana weyn wuxuu ninka halabuurka war madiinahadeeda durinkii ka weyneed ma kuwana hadda aan shaqaysanayn kuwaas oo dad shaqaysanayaan laakiin ugu title baa meesha yaala meeshan waqooyi iyo south baa yaala Soomaaliya marka horeba dadku waxay laba gool oo indhoo badan xorriyad qaato oo isku midbaa ma garad
taan lama diidanaba laakiin waxa laga diidan yahayba inaad taahdo waan go'aya iyadoo meeshii dadkii kula joogay aanay ogoleen oo waqooyi aanu hal reer ingiriiska meel ugu sii qorin oo aanu odhanin idinka adag way maraysaa waqtiga u dhira gacanta waaya way maraysaa ma garata caalamka hadduu soo jeesto maanta oo la yidhahdo ha laga shaqeeyo somaliland waa easy way dhib yar tahay dee caalamka umaba ogolaba walaalo waa tan caalamka safiir kasta iyo wax kastaaba waxay leeyihin waxay aaminsan ilaa imaaraadku midnimada soomaaliya anigu waxaa kuu sheegaya aan ku hubaa in soomaaliya aanay hami iyo rajo midnimo aanay hadda ka dhoweyn somaliland ay hore usii soconayso aniguna waayahay waa fikirkaaga aniguna waxaan qabaa inaanay somaliland 200 sano hadday sii jirto xitaa inaanay horumar samayn oo burbur iyo qabyaaladun hoos loogu waxaa la odhan jiray dhidar xabaal qodan qurun buu uga dhacaa in qurun uu uga dhacayo maantaba sheegaan iyo waxaan la yidhaahdo ayaan qabaa oo sharaftii soomaaliyeedna soo noqonayso oo ummadda soomaaliyeed intay soo wada raacday iyaguna marka dambe khasab ma noqonaysa bade dadku ka yaaci doonaan markii waa muqdisho nabad inoo noqotay iyo soomaaliya koonfur inoo degtaba daaso waaba intaaba xaggana qabyaaladun baaba dee lasii kala fadhiya haddii koonfurta soomaaliya ama dowladda federaalka ee mataqaanaa soomaaliya hadday diyaar u tahay inay mataqaanaa ay gasho unity iyo nidaamkii iyo farsamadii waxa laysku hayo ay ka soo baxaan mataqaanaa wax walba mataqaanaa step by step oo soo noqon karaa laakiin ilaa iyo hadda anugu taan kuu sheegay waxa ii muuqda kama soo naasacadanaga 40 years in mataqaanaa in koonfurta soomaaliya hataa intay dib iskusoo noqdo ay yidhahdaan maxaa horta naga maqan maxaa dhacay what's going on maxaa somaliland mataqaanaa ay gooni u go'aysaa maxaa keenaya dee somaliland odhane maxaa qabiilkan u go'ayaa dhow walaal ilan somaliland waan isfahmaynaa hal qabiil baa meeshan haystee halkii qabiil baaba iminka soo diganoo inagii baa sii haysanaba oo garxajskii baaba la boobayaa arabkii baa cidlad dirida loo diray waad arkaysaa anigu waxaa ma idhahdaa meherad reerleey meherad saacad muse weliba kusoo ururtay ba iminka gebigeediba from a to z agaasimo waaxeedka agaasimaha waxaba maana arrin qabiilba waayo walaal inagoo tii saaqaan kula hadlaya shalay tani habar jeclaaba madaxweynaha silaanyo ahaa saacad ma soo dhan wada mucaarad bay ahayn kuwa maantana waa kuwii ka hadlayay berri baan kuusoo dhigaya iyagoo diidanaa saldhigga berbera maantana waa yesman markaa inaan qadiirjino halkaa ka garo qabiil shalay tana habar jeclada qabiilnimay waxaan ku socotay maantana waa qabiil markaa ma qabiil baa dunidu aqoonsanaysaa catalonia halkan aan ku haya maa la aqoonsada dal muslimna un-kaba kuma jirtaba in lagu soo biiraba qabiiladii kale mayaan waxaa kuu sheegayaa adduunka waddan kasta iyo dowlad kasta dad baa hogaamiya ama qabiil ha noqdaan ama mataqaanaa jifa ha noqdaan dadkaasi ayaa doomineed gareeya waddanka oo mataqaanaa dadka lagu soo jiida oo indhaha caalamka tusa marka innaga dhibaatadayna haysa xoogaa hadduu saacad muse maanta doonaayo inuu innaga ina hogaamiyo ama ay habar jecel doonaysa inayna hogaamiso oo wax hagaajinayaan waa inaan ku raacnaa hadday wax xumaynayaan ka waran laakiin waa taageersanay hadday wax xumaynayaan ka warrano muuse bixiimka hablii wuxuu xidhaya adiga su-aal baan ku weydiinayaa hal su-aal oo qura igu ka hadhay taas kaba baxba sidii khayr labay noqon doontaa saad u aragtaa heshiiskan dekeda berbera ee qaybta laga siiyey etoobiya waanad maqlaysa haddeer tan yar ka hor ninkii isoo garaacay soomaaliya hadduu dana mala hargeysa igala soo hadlayay sidoo kale dalka la yidhaahdo suudaan waxay heshiis dhinaca dekedaa la galeen dalka la yidhaahdo qatar suudaan waxay qaadatay 51%. sidoo kale 49 wayqa waxa qaatay qatar bilyan lacagana way siisay shirkadna inay maanta DP World inaga heshiiskana la gashay 3 bilood ka hor waxay heshiis la gashay dalka la yidhaahdo Congo deked ku taal dal kale kuma soo darin iyagiyo Congo heshiis ku dhex maray Ethiopia maxayna soo dhex geliyay waxa ala ka jawaabay su'aashan saad u aragtaa Ethiopia waxa soo dhex geliyay waxa weeyaan Ethiopia waa dal aan dirsahay waa dal aan jaarnahay waa dal ay wax badan naga dhaxeeyaan 19% Ethiopia ay qaadatay inta ganacsi iyo inta mataqaanaa alaab aan u diraysiin miisaaniyadkaas u galaysaa oo miyaanad samayn karin waayahay inaad discounts okay su'aal Ethiopia dekeda ma nala leedahay Ethiopia waaye daris kastaan ahaan ma diidin darisku waa wax wanaagsan in discount la soo sameeyana wanaagsan dekeda ma nala leedahay dekeda horta miyaale ma inaga ma Soomaali baale doontii saaqo ka dhigo mise Ethiopia dekeda berbera Soomaali waa iskale haddaba waayahay miyaan la samayn karin ba in discount loo sameeyo sida caalamku isla dhaqmaan maxaa inay nala lahaatan maxaa inoo keenayaba iminka shaarkaaga ma kula yeelan karaa waxaa keenaya adduunka waa la galaa heshiis gesada waa la galaa wax waa la isdhaafsadaa yaa galay dalka galay bal waxaad ii sheegtaa dal kale adiga aan ku dhageysanaya dal kale uu hantidiisa la leeyahay sheeg heshiis dhexgeesooda galay waa kuma horta adigu hadda yani goobta fadhiyo rag mucaarad oo aragtida adigu aad leedahay hadda raacsan
joogaan oo yacnihii taageersan qaabka hadda adoo u hadlaysa iyo mataqaanaa ninkan wadani wanaada warcabsanaada iyo warabran waan salaamaya walaal alla ya ciise soo dhow warniyo barnaamijka live ku jira ha live ma walaal ku jirta aniguna waan ku jira adiguna waa lagu maqlaya live haddaan ku jiro horta ummadda Soomaaliyeed oo ku dhageysanayso aad baan u salaamayaa waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka adigana waa ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa calaykum assalaam anigu waxaan ahay nin Soomaali ah laakiin oo haddana dad ka soo jeeda dadka South-ka khaasatan waxaan ka soo jeeda aniga gobolada Jubbooyinka anigu waxaan ku takhasusay dadka dhaqaalaha economics-ka heshiiska takada barbaro ee hadda Somaliland gashayna ma filahayo inuu yahay mid u hiilinaya danta Somaliland ama danta wadda Soomaaliyeed oo dhan sax waxaan dhihi karaa sababta ay Ethiopia u gashayna waxa weeye maadaama ay tahay waddan Somaliland ay tahay waddan aan weli la aqoonsanin si micnaha dowlad kale oo wax lala galaa la raadinayay oo collateral waxay dhahaan ama insurance sidee hadhow garantii gareeyo karta markii iyo dhismaha meeshaan lagu dhisayo mataqaanaa garantii gareeyo inaysan hantida ka lumin nimankaan carbeed صح weeyo nimankaan Somaliland waa dareemayaa sababta ay heshiiskaan u galeen ayagu dadkay waxay iska tuseen waxa weeye inay mashruucyo maalgelin caalamka ay u bilaabaan oo hadhow mashruucyo kala imaadaan ama shaqaalaha dekeda ama wadada la dhisayo la sheegayo oo ilaa iyo xuduudka mashruuc noocaasi ayay ka wadaan laakiin mustaqbalka fog ma aha wax Somaliland ama ummad Soomaaliyeed dad ugu jirto ma aha taasaan aaminsana waa mahadsantahay walaalahay ciise waa run walaalahay ciise waa mahadsantahay dad kale oo telefoonka iyaguna iga soo garaacayo idinkoo mahadsan dhammaantiin adiga wadaniga kale ee xaafadda isagana aad baan u salaamayaa waxaan leeyahay guriga gobonimo Soomaaliya dhan ha guulaysato waxa weeye aniga doodaydu waa tahay markaan soo qabanayna hadii la yiraahdo laakiin waxaan leeyahay anigu Soomaaliland ha jirto Soomaaliya ha noolaataan lahayaa ma garata haye walaal shukran alla ya ciise haye waay shukran haye assalaamu calaykum aad iyo aad bay bulshada Soomaaliyeed bartaan naga daawanaysaa u mahadsan yihiin dhammaantiinba Allah raxmaanka Soomaaliya isfahansiiyo oo had soo xaqa iyo gobonimada had soo waayo waxaan la socdaa shirkadda DP World waxay la gashay dalka adag Congo maalin dhowto heshiis dhinaca dekedaha dalka ama soo dhex galan walow Congo laftigeeda ay dhaceen oo ay waa maafiya iyagu haddaan dambiga iska dhaafo Congo waxay siiyeen baan filayaa dhowr iyo 37 kalena iyaga ba qaatay oo shirkadda caadi oo cadaaliya ma laakiin se Congo Zambia la dirisa deked ma laha sidoo kale dalka la hado dadkan waxba ma eegayaan dalka la hado Malawi ayaa border la leh oo border ay wadaagaan waxa kale oo aan deked lahayn Zimbabwe haddaan dambiga iska ilaaliyo Botswana ma laha maybe Namibia inay leedahay filaya taa Botswana sharciga taagan warmay laakiin waxaan ogay Zambia ma laha deked ama badba ma laha waa wadanada Soomaaliya sidoo kale ma laha dalka la yiraahdo Malawi ma laha dalka la yiraahdo oo Malawi Mozambique baa u dhow sidoo kale ma laha dalka la yiraahdo marka intaasuba ma laha qayb kamay noqon waana suuqa aada Congo alaabteedu geynayaan qayb kamay noqon hello wa alaykum asalaam wa rahmatullahi wa barakatuh soo dhaw walaaleen magacaaga walaal iyo meesha kala soo hadlaysa adoo iga xalay waan qabteen oo hadlay Amina Ali Guraha walaal soo dhaw from London waan ku salaamayaa aad baan salaamay Soomaaliyeed oo dhan waxaan doonayaa inaan joogo wiilkii ilaa Somaliland كمني هذه قوات كنا ديك سمعنا أنت بيكون إنجليز كوب حكتو تشيرفا أو هركين إنه بيجتنا يو أنا كنت كذا إصل يو سناج يو بو هذا صح مركا أنت أسيانو تدخلون في واحد مشغولية يعني ما بس أصلا ما أقول كسبال لكم الجيران يو وحا يو ضد كذا ما بيجي ويو وحا هو أساس وحكمة صهران أساس كويناني كتيرين هذا يقولون سنة دمسيج أنا هناك من دون دوني وحيد ما شغلتها صح أذكر حتى هالجستوين مثلا كيلو أذكر هيستوي كرانو قبل كذا كيلو تكسر على النوع إذا قلت كذا سيد بيلي ما تخيستو مشهر بعض الكقاطة وضع كذا بعين هاي صح
ma garatay waxay iska qaataan saraakiil ha jirto waxay iska madax iska jiraan wasiiro waxaasoo dhan hadday jiraan maxaan ku raaci karaa sababtaan ku raaci karo aan soomaaliga u go'i kara maxay tahay waxyaalahay ku andacoodaan qolyahan goonigoodka hayseeya waxaa ka mid a madaxda sare soomaaliya nala ka qadiyey sax dee anagu taa kaamid noqon karno beelaan haddii loo hadlo waa beel baxiseen anigu runtii marka beel laga hadlay marka dee sida qolyaha goonigoodka ula doodayaan beesha iyo ku idhaha soo qaatay laakiin qiimo iguma fadhido oo kun jeer noqon mid beesheeda ahayd dadka soomaaliyadu golab ay noqonaya wax gooniya heli maayo waa run laakiin markaan afkooda kula hadlo tan iyo malaykii soomaaliya la aasaasay 60kii xornimada qaadatay anagu dajfiir hoose beesha daarada ka mid aan nahay waa run beesha unbaa qofkan beeshayada ka mid ah madax uu ahaa waa run marka taa kuma raaci karno horta laba goynti ay la wareegaan sax labada goynti mid waa kaa waa runo hade waa xaqiiqo markii lee waxmana lama siin dee dhulbaantay iyo dadka qaar baa doonaya inay wax dambe basaan dhulbaantay warsangeli waa daaro dee fikirkana lama qabaan oo iyagu waa ku halkaaba dee way joogeen xaggaaba waa run kasoo jeeda beelaha marka ayadiga noo sheegi jirtay habar jecel ahayd inay habar jecel la simantahay xarti baxda anaga siya looga baray si fiican ma garatay iyo macaan soo kortay marka waan isaabeynaa mawjadaha ka hadlayaan anagu lama haysto kamana soo duudin xil la-aan lama haysto kuma raaci karna horta arrinta pointigaas waa kaa labaadna waxa weeyaan wadana way taagan yihiin dilku haba jiro laakiin iyaguba jihada say dilaysay oo nin bijab hada wadanka soo weeraray waa laga difaacaya ha yeeshee dilka ka soo qaad waabana la dilay dee anaga miyana la dilay marka anaga dowladda soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed koonfur degan yayna dishay maya idinku dee dad caandam idinkoo deegaanka waqooyiga ah haddana dadka dee wax tirsanayaan waa beesha dhexe waa beeshaan waa kasoo jeedo dee in la dhaahiyo iyo dabcan taas waaba laakiin waan go-aynaabaa dee wax nooc kale waxa aan ku raaci karo aasaaska kama soo hadaba maxaa isku mabdaba ma noqon karnaba isku aasaasba ma noqon karno isku hadafba ma noqon karno siinaba waxyaalaha aan laga soo toogayna waxaan beenaadkan ay la wareegay mise geedka u gaareen xunba u noqonayo u qoraya waxay tahay aasaasba kuma fadhiyo salba ma leh maalinba meelka ku boodaya maalin lafaadi lasoo gura iyo meelba lafa way yaaleen hadda xoola lasoo gura iyo dibidad lasoo guraba macna fadaan mayso waa fariintada halkaasaad marsanaysaa waa dadka fariintada bartaa marso dee inankiina uuna dhegaysanaya qaar kalena way ku dhegaysan doonaa adigoo waxaan u sheegay inuu ku biicado hooyadayda ka jirtay qadniinka ku dhac jiray intii ku dhac jiray hadday jirto somaliland inayna ka mid noqonin goboladaas iyo dadka halkaa degan hasnaawidka waa mabda because aasaaskii qof kasta oo waxgarad oo annaga naga mid oo hadlaa oo yani aan wada xidhna ka warqabaa wuxuu leeyahay ma innagaaba isku mabdaba ah sax marka kiiba iska cunayaana wuu iska ogeyni mabda ahayne jeedkiisaas maalintaas uu diyaarsanaya marka damaanba kuwa soo noqda meelaan kala yimaada marka waxaani wax soconaya ma aha ummadiina hadda inta xataa beeshira isxaaq ahayd maxay mabda'aas lagu qufayada xataa fahamtay wax soconayo uusan dadka qaadayn maxaa yeele wixii markay beel ku aadsan tahay oo macnaha loo sameeya beeshu baa sii kala soconaysa sii kala dilmaysa sidii batoshi si fiican iyagina khaatiyaan ka taagan waxaasi wax dad waaweyn shir la yimaadaan maaha waxa horkacaya iyo waxa mabda'an wadaana maangaab aan wax la raaci kara ahayn bay soo baxeenba marka horena way mabda ugu fiicnaa dadka axyaabta markay ku jirta u wanaagsan laakiin hadda ugu daba noqday wax aan carruurta ku sheekay mala shirimanaya marka waxa kan wax soconaya maaha xamaamna cid wax ku raacaysa male haddii la caytamo iyo haddii maxay lafa lasoo guro iyo haddii qabiil baara la xisooqay waxa yidhaha waxaasi wax lagu noqonayo maaha waxa lagu noqonaya waa midnimada ummadda soomaaliyeed iyo qaranka waxa weeyaan waxa la isku waxay kaloo la yimaadaan isticmaalkii xuduudihiisii shantii waa la mideeya haddii kale somaliland shantaan bay ka mid ahayd waa shanta maxay ummadda soomaaliyeed waxay ahayd jabuuti waa ummad maxay dowlad ah oo xornimo la siiyey waxaa lagu siiyey waxay ahayd gumaysi baa dadka ku qasbay waatan iyadoo duubana recording madaxweynaha madaxweynihii hore soomaaliya alla yarxam uu ku hadlayo markii lagu qasbay la yidhi ama gumaysa ku jiraysaan ama inaad gooni u goodaan uu fasaxay uu yidhi intii waalahayn haddii ay xornimo ku helayaan waa la ogolnahay waa la ogolaaday jabuuti waa dowlad jamhuuriyad maxay soomaaliyeed oo looga yahay lagula rumaysan yahayo
qaramada midoobay kursi ku leh waa aad iyo aad baan labada goor ee kalena walaal labada goor ee kalena khasab baa lagu haystaa marka aniga taasi igama dhigi kartid igama hormarin kartid kamba buu halkaas joogaayo kamba waa waxa shaqo caruureed baan oo qaana waxa idinka soconaya adeer meesha kuma haystaane waxa dhalinyarada ah meelaha ka caysamayo oo intaha kala furo oo beenta odayaashan ku qaraabanaya inta yar ee ku eeganaya bulshada ka dhisanayaan kaliya ay mabdacoodu yahay ha ku dabalumina sugoy waa runta allah ya ciise waan ku salaamaya amina cali guraado inoo soo koobaya insha allahu tacaala aad iyo aad baan kuu salaamaya oo inoo soo gebagabay insha allahu tacaala walaal waa soo gabagabay waxa weeye waxa kale wax soconaya maaha intan mushaar ku qaadatay wax la caayay intaas ku jirayaan intaa ku dabalumina dawladnimada Soomaaliya wax ka dhisa ciidanka gara waxay ka soo qaadata aad bay salaamayaa shukran aniguna waxaan ku sii daray Soomaalidu horto dee qof kastaba Allah raxmaanka waa la tacaarufo qabiilku ay maaha laakiin qarannimo aynu kaga baxaynaa aynu qaadano nation mentality oo ah xanuunkan qabiilga ay nagu dhacay qabiil iyo waxaad ka sheekanaysan dee hadiidine waa iyagu waxay la soo taageen soo kuwan ma anaga nimankan dadka waxan ku shubaa iyaga waxan iyo ideology soo jeediyay iyaga oranay hadaan saaqnahay waa ka rubaanta daway la degeen waqooyi ma aaminsana anaga warlay ma khasabaad Somaliland way ku soo qaadanayaan okay Samaroon ka dalik warsangeli ka dalik xuquuqdooda meel la lubinaya iyagu meel ciise ka dalik gabooye ka dalik isaga waa dabade talabaad dadkan in laayeen lana dadka been dad shacabeyna inamay laynde niman siyaasiyiin oo shirayaan tii halaga aan leeyahay way hadaba iyadoo loo sad burinayaba war bal hada deeydinku wax tirsansan kaalay oo miidaankana iskeena laakiin in duday nin aan hadloon habartiin waxa ma siiso hadduu siyaasiga mududay uu leeyahay oo caruurtiina ku abuuraya xanuun iyo cuqdad iyo nacay iyo isaaq baa la dilay uu la soo taagay iyo waxana lagu sameeyay dadkan kalena waan la dilay bay taageen doodooda dhageystay hadii mid ka Samaroon yiraahdo 1991 kana madaxweynaha ka dhigateen in 1995 baa leh ee Muuse Bixi 1991 sorry soo kii dagaalka nagu soo qaaday soo kiin ilaa san markaa Steven u yeelna oo aanu marka de aayad ma noqonayso hatta taado qofkuna xitaa diinta Allah raxmaanka ma ogola gaal dilbuur gartiisana si awoogeey faraxsanweyne qofku waa adigoo kale nin kasta ninku yiri sinaan mayno anna buris reentiis masagaashan baa tiisu sidkoo wadagtaan marka isaga oo leedahay khasabaan Samaroon ku haysanaya warsangelina waxba ka soo qaadi maayo dhul baantana waxba ka soo qaadi maayo taadigan waxba laga soo qaadi maayo laakiin soo ogolow inay kula simeeyeen inay iyaguna doodooda qabi karaan inaanay ogolaan karin caalamkeena samaystay oo ay diidi karaan sidaad ugu baa dawladda Soomaaliya leedahay waan diidan oo midnimadii waan diidanay ma ogolaan karaan ciisana ma ogolaan karaan ma badanayaan buu iyagu Djibouti sidoo kale waana la xasuuq Soomaalidu baa isla xasuuqay dawlad baana nidaamka yaa kuri way ku jirtay nidaamka soo kuwana maanta madaxda ka dhiganaysa soo nidaam iyo system ka caban mayso maxaabad qaar kale fog bakay labada ninka maanta xisbiyada kala hogaaminay Faysal Al-Waraabe wuxuu la qaxay ninka la yiraahdo Allah musta'an siyaad bare ayuu baran la qaxay waxaan leeyahay uu la qaxay meesha aado Bordeaux uu la shaqeynay ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Cibro wuxuu ahaa safiirkii 1995 waqtaha markii Faysal Al-Waraabe soo raacay inuu ciidamada ee Russia ee Moscow fadhiiba kumanaan isaaq baa la markaa ma wixii kala oo baynu haysanaa miya taasuna cadaalad noqon mayso waxbaana lagu sameeyay dawlad baa lagu sameeyay nidaam baa kamid baahay laakiin waynu go'aynadan deewa waa khalad go'itaankan wuxuu noo soo kordhiyay go'itaankan iyo goonigost wuxuu soo kordhiyay qabyaalad dulmi hantidii guud oo la boobo intaaba waa la boobo balad xawana waa taa maanta wala la soo xiray maanta ay arrinkeeda la soo afjaray waxba ku meeraalaysan berbero waa xaar ku wareegsi wiya ka yeelay mid baa kan xulaa heshiis taxgeersada bal soo sheega dalka la yeeshay dekadiisi dalku way soo sameeyaan wax la discount laakiin ma dhacdo marka goonigost wuxuu dhalay intan oo dhibaato u dhalay wuxuu dhalay tahriib wuxuu dhalay cisbitaalada caafimaadkood Ethiopia ku jeclaan aniga translator waxaan soo turjumi jiray aad waxbarashadaadii oo aan dunida laga aqoonsan oo certificate-kaagii aan aqoonsaad u helay wuxuu kaloo dhalay hantidii guud ee dadka ka dhaxaysay oo la iibiyo oo dad gaar ah iibiyaan wuxuu kaloo dhalay bob wuxuu dhalay wax la yiraahdo maangaabnimo waa taas maanta diyaaradaha ku dul maraysa oo diyaaradaha waxa ka qaban karnaysid oo weyn سيلع بيك قصو قليل حبك له إن سعودي اسكو قادتها سعودي وارد أنا خوف رحت ما تم حي وجودي أنا ودفاعي وحاصرنا أي ورا
no social service arrimahaas oo dhan buu arrimahaas oo dhan ayaa laga dhaxlay wadigana wada qaxoonti baad bal su'aal isweydiiyo berigii dawladnimadii maxaa qaxoonti baad hanti wati Dubai iyo dadku shaqo tagi jireen oo meelaha waxa uu ma inan baa isaa qaban kula hadlaya luqadda garanaysan ay soo taariikh jirto badaha Liibiya meelaha ku dhimi jirtay oo meelaha ku baabi'i jirtay dawamaya ma wada qaxoontigan inuu qurbaan ka wada qeylin inuu hayn jirin wada Soomaali oo wada waliba Soomaaliyeed marka nima yahay garaadkii aqal waxa shaqeeyo waxana waa dream riyo nimankan ku jiraan Catalonia oo afar gobol oo riyo baa laga diiday goonigoos hogaamiyadu soo carar oo Spain jiro waa sharci darro iyo qayn wadan Carlos Nicola wakiis Belgiumkii iminkana Jarmal buu ku xidhay waaba laga diiday wana afarta gobol Barcelona Girona Tarragona iyo Liga oo ugu taajirsan meesha la yiraahdo Allah musta'an Spain Muusana waxba ma Muusana wuxuu ahaa ninkii isagu dagaalada geysanay qolyahiina iska booqbooqayo imise dagaal oo cad buu geystay Muuse oo dadka ku leeyay halo midnimaduna waa danta ummadda Soomaaliyeed ka hadla marka ha noqonina maroodiga la oran jiray takarta saaran ma arkay maroodiga kala takarta saaran ma arkay Muuse wuxuu ahaa maandar buu ahaa 1995 kii dagaal buu geysanayay oo dhibaato geysanayay sidoo kale boorama dadku ku leeynayay dad bay ahayd maanta xaraan buu ku soo baxay iyo qabyaalad iyo qurun buu ku soo baxay hanna ma laha qabna ma laha hankoodina afarta hargumayso wuxuu dhaafi waa inay ka dib barbarayibiyaan halo هذا الدولة برنامج قف أنت سجل بسرعة قف عصو هذا ما هذا يو تيسجل تعالى ما كوالله يروح نقصه قبل بينتنا إن شاء الله تعالى وحنا مقدشة كذا عيانا وواحد صومالي ولا كذا عيا مقدشة صومالي ما كلام مرمى هرجيسنا حكم صاكردين برعنا حكم صاكردين مقدشة أنا وأنت يا رح تايهلنا مقدشة ما لقى صوان صحيح مقدشة حكاس أي قصة مرتا ورتوح نقصه قبل بيني أرن كبير الحوا ولا صاف شري وقولي يقبل ما خد معاذي مدحونا قرنك ويسمونه كقدومي سفير كموريتانيا sidoo kale qolo kulmay madaxtooyada Soomaaliya fila Soomaaliya senator ka soo jeeda dalka iyo Mareykanka sidoo kale heshiis wada hadalkii dib u heshiisiinta gobolada Shabeellooyinka hoose oo maanta isaguna Muqdisho ka dhacay dawladda meesha Itoobiya la yiraahdo oo iyaduna aan islay Allah raxmaanka ah midkii hordham oo ka dhigay xisbigii EPRDF oo u doortay gudoomiye nin Oromo ka soo jeedo Oromiya bale ka qoosanina mees Oromada bale isma oran jirin Itoobiya hogaaminayaan marka adeer wax la yiraahdo qadiyad iyo goonigoos waxana waxba isma dhaamaan walaalayaal waxba ku daalin sidaal aniga waxba ko sheegaanta ka soo ordana waxaan idin sheegay ama sheegaan ka soo orda ama balaayo kala ka soo ordo wuxuba waa isku mid way idinka ku dhino dadka hawaalina hadii wadani ku soo bixi lahaa Cabdiraxmaan Ciro FIFA Somaliland Jamhuuriyadda Barakeysan ma oran lahayd marka aniga waxba meelaha ka soo booqana taanay soo dooranayna anigu idin kelimo soo doontaa halka san ka hadlay laakiin hadda isku soo jeedsan anigu cidna uma joojiyo taa ku biicad wala gari sodogiyo siditoona ma taqaan anigu reeb araxsanayn soo jeedaa heego ciyaar baad ku timaada faraxsanana ugu baa ninkii lahaa ninka ogaadanay hash ka soo luntay arno dadkaasan taasan xaq u arka xaqqa ninka sheegay dabadna ninkii inta ka qabay ayaa hash haystay hash nin ogaadeen waqtisada waxay ku baxday ayay ka soo luntay ninkii ogaadeen baa ninkani ku qabsaday ninkii faraxsanayna inta ka qabay faraxsanayna isla yimaadeen ba dabadna labadii nin buu aad wareesto dabadna wuxuu yiri wariya gabtu sodogiyo siditoona ma taqaan hashan ninkan ala wade deegaan isaaqo markaa ugu imanayna habar jacayl aad taban warna daara okay ninkii ogaadeen wuxuu ku dhifaraxsanay faraxsanaynu ma hal baan ku dhaarnaa mise hal baan ku lisan warniyo hashaada kaxaysan ku yiri aniga hadda doonto afshan adiga leh hashiisi buu kaxaystay magaciisa uu fogay dabadna meel kasta oo waa deegaanka ogaadeen oo ay shaxda lagu ciyaarayba ama shir la isugu yimaado ama garab wuxuu oran jiray inay sawirino geeyo markii dambana waa kii ninkii halaboorka heest ka sameeyay ee uu ku luqeynayay Maxamed Nuur oo lahaa garta inay sawirina loo geysan jiray gaasray inaga yeena kala guray tan waa ugu giba faraxsawina Allah daayo Allah karaan marka gartu sodogiyo sidimina ma taqaan habeeronis ma taqaan aniga dhinacayga la dhigmaayo iyo garxad soo abtiyaal ma taqaan tolka yaa habar jacayl ma taqaan wixii naba hal qabiil been oo isku eeriyeen qadiyada roos isku haysta marka aniga sheeganahay ay sheegantan anigu waxana kala sheegaamaynaysan oo dhan isku mid ah marka waa one and the same thing
fikradan doesn't make any sense wax micnaa oo samaynaysa ma jirto waa qabiil idinkuna qabiil baa ka soo orodeen kuwan kalena qabiil bay ka soo orodeen kuwan kalena waa qabiil marka waa cadaalad darradu waa halkay ka bilaabato marka horeba maxaa lagu heshiiyey dulmi baa lagu heshiiyey dulmiguna wuxuu dhalay qabiiladuna waxa la yiraahdo waa basalo way sii dhilmaysa xasaan muuse abar jecel oo quraado haysanaysa idinka dam kuwan kala qadiyad kala la iman laha marka aynu garanno calankan ninkani kanaynu ka carreeyno iyanu ka carreeyno kan inaga la dad Soomaali baa qabiilna ma laha sharafteenu kan ku jirta iyo isku doobniyo wada jir laakiin halka uu baxa bal soo shiro kun shir sameeya ina qadiyad ku keentaan iyo horumar kuwana waxa kuma haystaan waa kuwan dhalinyarada soo taariikhiyaan burca ilaaha sinaay soo jeeda waa bil camal iyo beledhiga deegaanada iyo meesha la bil weyn iyo saraar iyo guban iyo qayb kamida sanaad iyo qayb yaro bariga barbaraan marka waxa ma sheegayaan kuwana waa ka daalika afar tuug ba meeshan ku wada shaqeysto oo iyo afar nin oo taajiriina oo la yiraahdo daabshiil iyo oo isaguna la boobo wax iyo kan kale la yiraahdo ina xarbi baan ma danta habar jaro iyo kan bidaar ninkan magaciisa ilaahay de maydhayba inanta ku guursaday la yiraahdo baasha organize-na maafiyada dubina marba jooga kun saac musnada waa afar tuuga laakiin iyagu inka de tuugtoodi waa weynad oo qabiilad midhan ba noqotay ilaa dhig wixii oo dhanba ayaa bas ku raacay fiifa muuse bixilahay war sunig shato mucaaradka dekada berbera laha markii saldhiga berbera la keenayay markaa ma la jiifiyana banan la joojiyana banaanba idinka laftigiinu de waa khaldantiin kuwan kalena way khaldayeen aniga cirra iyo wata iyaguna waa khalday ruuxina qabiil beednay aynu qarannimada u soo noqon taasayna afaada qarannimaduna waa Soomaali oo dhan oo isku duuban taasaynu dalalkan Ingiriis kalena Ethiopia bay waa Oromo Tigray Amharo koonfurta shucuubta koonfurta kuwa kale gambeeyaha la yiraahdo hal dawlad bay leeyihiin waa kuwa maanta kritig waaye ka Oromada halka ka dhigtay inaan Ethiopia burin Kenya ka dalay waxa weeyaan ku kooyo kuwi kale qaaqawanaaye maxaa loo dhiray dhinacan iyo soo digi jiray iyo sheega waxa soo dhanay isu tigi waxa markaa adigoo qabiilada dhinac ku saaray qaar waxna Djibouti ba hal qabiilada iyaga ba canfar baa la dhigtay ma hal qabiil aad baan salaamaya meel ku sugantiin ba assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh